ummad Soomaaliyeed ilaahana makaniyay dalkan Soomaaliya waxaan markaa u baahannahay cid kasta ee Soomaaliyeed inay fahamto waajibaadka ka saaran dalka dadka diinta waxaa jira cadow badan oo ku soo fool leh ama soo hunguriyay ummadda Soomaaliyeed marka waxaa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay fahamto midnimadooda wadajirkooda qadiyadda ay leeyihiin waliba waxaan jeclaan lahaa professorada qaaliga maanta fadhiya oo in badan buugaag qoray waliba ay ku sii dareen sida dhaxalada kale buugaag taariikh ah oo sida gumaysiyaashii la soo maray caqabada ay sameeyeen jiritaanka Soomaaliya in la baro da'yarta waxay tahay wadaniyad ama jiritaanka Soomaaliyeed waxaad moodaa waayihii dambe in afka Soomaaligu uu sii tabarko'ay laakiin runtii dad badan oo istaagay martii qoraaladii iskuuladii manhajyada kala duwan lagu kala dhigi jiray waxaa loo soo jeestay in manhaj Soomaaliya la sameeyo oo qaybihiisa hore u dhammaadeen qaybna ay socoto laguna sii tari doona taas waxay ku caddaynaysaa marka in lagu soo noqday afkii Soomaaliga waliba waxbarashada xoog lagu saari doono intii la yiraahdo si dadka da'yarta loo fahamsiiyo wadaniyadda jiritaanka Soomaaliya iyo taariikhdii la soo maray ay u soo martay dad yowga daga horeeyay oo nagu simay dalka Soomaaliyeed annaguna waxaan isku dayi doonaa inaan ku simi doono jiilka soo socda iyo kuwa kasii dambeeya intii la yiraahdo jiilba jiil ayuu ku dhaafaa dalka Soomaaliya waa dal muqadas in qof kasta uu istaagto intii la yiraahdo waxyaabaha hadda marka aan rabno in ka xusno oo afka Soomaaliga xoog ka saaray waxa ka mid ah akademiga gobolka afka Soomaaliga akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta dhaxalreeb Somali Pen Green Hope aad ayaan ugu mahadcelinayaa inta u soo istaagtay soo nooleyntii ku dhaqanka afka Soomaaliga hadda kadib waxaan isku dayi doonaa inaan sii kordhino sidii afka Soomaaliga ugu horumar lahaynay oo luqadaha kala dhulku dhigalaynay martaan luqadayna aan ka tagno waxa u dhacaysaa Soomaalinimo ma jirto waxyaabo badan hadda naga maqloon tabayna dal kasta wuxuu leeyahay shilin u gaar ah iyo sumcadiisa iyo dhaqan iyo hiddihiisa uu leeyahay annaga waxaan moodaa in shilinkeena uu yar yahay oo isticmaalno lacag qalaad iyo hawo haddii maanta ay ka baxdo qadku ka baxo elektaroon ama hawadu ka baxdo in badan oo Soomaaliyeed ayaa moodaa inay ceyrnimo ka soo socoto sida awgeed waxaan jeclaan lahaa dowladda Soomaaliya nafteedu inay noo samayso shilin Soomaali aan ku dhaqanno oo lacag yar iyo lacag weyn intaba ah hawadu ay noo dheer noqoto iyo lacagaha qalaad laakiin shilinkeeni waa muqan yahay in soo celin ilaahan ka baryaynaa afkeeniina waa tan ku dheganahayo hiddihii iyo dhaqankii iyo jiritaankii Soomaaliya u taagan hadii la yiraahdo in alla intii ka soo qaybgashay xafladda oo marti sharaf nala fadhida iyo ardayda Green Hope na aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay dhammaantiin waad ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkan dood cilmiyeedkan ka dhici doona iyo professorada maanta u fadhiya annaguna aan ballan qaadnay in aan sii wadi doono dood cilmiyeed badan oo Green Hope hadba meeshii nala gasho iyo caqabadaha aan fahamno in u baahan tahay dadka in la tuso in la baraarujiyo insha Allah hadii la yiraahdo aad baan soo dhaweynayaa waana ku socon doonaa hadii la yiraahdo waxaan noo bilaaban doonaa insha Allah dood cilmiyeedkii laakiin khudbada halna nagu xigi doona wixii ka dambeeyana waxaan bilaabi doonaa dood cilmiyeedkii noo bilaaban doonaa idinku mahadsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم لي والله يعني وجودي بين حضراتكم وبين الأساتذة والعلماء الكبار المهتمين باللغة الصومالية وأنا يعني هنا جئت إلى الصومال لأجل دراسة اللغة الصومالية يعني أظن أن كثير من الصوماليين أشكركم شكرا جزيلا كثير من الصوماليين يعني الحمد لله يعني يفهمون اللغة العربية ويهتمون بها اهتماما كبيرا وأيضا وجدت اهتماما باللغة الصومالية
لكن يعني هناك بعض الأشياء التي لاحظتها ونحتاج إلى مجهودات كثيرة. وأنا وجدت في جامعة جرين هوب هذا الاهتمام وهذه البداية، وأرجو أن يكون هناك استمرار لهذه الجهود من الحكومة الصومالية، لأن اللغة تعتبر من الأشياء المهمة ومن الأسس المهمة للوحدة والتآلف والتقارب. لأنهم لما قالوا من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا الكلام إذا كانت هناك بينك وبين هذا الشخص الذي تتعلم لغته عداوة، أما إذا كان الشخص الذي تتعلم لغته بينك وبينه ألفة وأخوة ومحبة، تزداد هذه الألفة وهذه الأخوة وهذه المحبة بتعلمك للغته وبتواصلك معه بلغته. وأنا لما رأيت عندما جئت وسألت عن مكان متخصص في دراسة اللغة الصومالية كقسم أكاديمي علمي في الجامعة الوطنية أو في أي جامعة، ما وجدت مكانا. يعني الأكاديمية الصومالية للعلوم والثقافة والفنون موجودة نعم، وفيها اهتمام كبير باللغة الصومالية. وأيضا الأكاديمية الصومالية، الأكاديمية الإقليمية الصومالية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الله عمر منصور أيضا موجودة وتهتم أيضا باللغة الصومالية. وقسم اللغة الصومالية أيضا في جامعة جرين هوب. لكن وجدت أن كلما سألت قالوا لي أن جيبوتي وإثيوبيا فيها أقسام علمية للغة الصومالية، يعني اللغة الصومالية تدرس هناك في الجامعة، وممكن أن تحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في اللغة الصومالية من هذه الدول، على الرغم من أن هذه الدول ليست الصومال، فالصومال أولى بلغتها من هذه الدول. وهذه الدول ما تقوم بتدريس هذه اللغة إلا لأهداف ولدوافع سياسية واقتصادية وهذه الأشياء وأشياء أخرى يعني. فالصومال لابد أن تهتم باللغة الصومالية، لابد أن نرى هناك اهتمام كبير. وهؤلاء الأساتذة الكبار، أنا منذ أن جئت والله إلى الصومال وأنا أحاول أن أتواصل مع المسؤولين في هذا الأمر، يعني من أجل أن نكثف الجهود لإنشاء قسم أكاديمي في الجامعة الوطنية ليحصل منه الطلاب على البكالوريوس أو الليسانس في اللغة الصومالية، ثم بعد ذلك يستطيعون أن يكملون الدراسات العليا في الأكاديمية الإقليمية أو الأكاديمية الصومالية في مرحلة الماجستير والدكتوراه. وإن شاء الله نعمل على ذلك، وأرجو أن تكون هذه الجهود لها تأثير ولها أهداف ونصل إليها إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أشكركم شكرا جزيلا وأود ما تسنتهين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحي علمي هذا سوق وحوي أقون dheeraad ah oo ka dahsoon maxaa ku yiraahdaa dadweynaha aan wax baranin caadiga ah wax ka dahsoon. tusaale haddaan soo qaato maxaan ku yiraahdaa haddaan yiraahdo il yani waa aqoon dadka oo dhan wada yaqaanaan, waa xubinta aan wax ku aragno ee xanuunsan karta. intaas ayaa maaragtay la wada yaqaanaa iyo wax u eg. laakiin markii cilmi la aado waxay tahay intaa aan wax ku aragno keliya ma ahee ishu maxay ka kooban tahay, siday u shaqaysaa, maxaan ku yiraahdaa ishaan annaga intaa hore aan aragnaa, laakiin cilmigu wuxuu noo sheegayaa isha gadaasheeda inay muruqyo jiraan, xididdo jiraan, in meesha wax lagu arka ay tahay meesha gadaal. waxaasoo dhan waa wax dahsoon oo cilmigaa kuu sheegaya. laakiin marka aan leeyahay sidaan hore baan u sheegay, yani waa ishaan aan wax baan ku aragnaa bis, waa intaasaan aan ka naqaana. marka cilmiga isha waa waxyaabahaas isha ay ka kooban tahay, maxay tartaa, cudurka ku dhacaya wadeed, waxyaabahaasoo dhan. tusaale marka afka aan usoo noqono, af markaan leenahay waa la yaqaanaa, waa midka aan ku hadalno.
marka qofka aanan ogeyn cilmiga ka dambeeya hadalkaas sida hadda la leeyahay yani ardayga jaamacad afku baranaya ma hadda af Soomaali baranaysa inta kaliya ma xataa waxaan xasuusanahay London Oxford University qayb ayaa af Soomaaliga laga dhigay fursad la siiyay arday inay maaragtay bachelor ay ka qaataan ardaydii isqortay hooyooyinkooda ka rabay hooyo maxaa isku qortay af Soomaali ma af Soomaali adoo Ingiriis timid ma af Soomaali baranaysa marka waxaanan ogeyn qoftaas afka lagu hadlayo kaliya laakiin afkii cilmigiisa muxuu yahay wuxuu yahay sida isha oo kale afka muxuu ka kooban yahay ma aragtay muxuu yahay xeerka ama xeerarka hagaaya afka ma iska dhihi karnaa ma aragtay sida aan rabno xeeraa jira oo maskaxdeena ilaahay noogu abuuray oo aanan dareensaneen sheeg haddii la yidhaahdo haddaan yidhaahdo yimid cali qof hadduu yidhaahdo yimidna waa Soomaali calina waa Soomaali lagamana akhrisanahay xeerkiyaad jebisay maxaad leedahay waa qalad sheegay ninka Soomaaliga aanan baran yimid cali maya khalad waay maxaa keenay marka xeer ayaa jira yani xagga codka xagga sarfaha xagga dhismaha weerta iyo wax la mid maartay oo badan xeerar badan ayaa jira marka qofka haddaanan ogeyn xeerarkaas aan darsin kama jawaabi karo waxaas mana sixi karo haddii qalad uu dhaco يعني قالت كان سيدان وايه لكن سيدان او سبب ما دهي كره خلد وايه كليو كله سيدان انك غبياغا غبي waa tirinaya markuu tiriya hadii gabaygaas ani si xun maartay meel yar aan ka bedel xaraf wuxuu kuleeyahay qalb waa jaban yahay gabaygaas maxaa uu wacan meeshaas laga rabay meesha 22 cod laga rabay kaasaad yeeshay kaas ma dhahay wuxuu leeyahay waa deel qaaf waxaan ku soo gunaanadayaa madaxda nin ka mid waagii ololaha af Soomaaliga ayaa waxa mid maartay dhalinyartii dugsiyada ka baxeen waxa loo diray inay maartay dadka ay farbaraan bakool xuduran oo maleena magaalada meelahaas marka wuxuu sabuurada ku qoray Maryan moos bay cuntay marka dadkaas waxay ku hadlaan lahjada maay macallinkii la weydiiyay macallino Maryan Goroni waa Maryan moos Goroni moos may maxaatiri ismid waay Maryan moos ismid cunay aamilayo Goroni bay may agtaan bay maxay tahay ii sheeg macallinka ahaa indhuu taagay bay ma yaqaan micnaheed micno gaar ay leedahay male waa wax oo maartay dhismaha weerta haddana lagama maarmi karo Maryan moos cuntay weer bay waan door weyn ay ciyaaraysaa yaa waay marka qofka fahmaya waa cilmiga maartay la yiraahdo cilmi afeed marka cilmi oo waxa jira u gaar cilmi luqad linguistics waxa la yiraahdo oo afka wuxuu yahay baaraya hagaya maxaan ku yiraahdaa saxaya haddii kale waxay noqonayaan wax maartay isdaba yaacay raali ahaado waa wadaarada ina waqti dheer ku bixiyo loo baahna su'aashaas jawaabteeda laakiin waxaan ku soo koobayaa cilmigu afka kama maarmo afkuna cilmiga kama maarmo labadooda waxa waaye midba midka kale ma ka maarmo wax isku xiran waaye cilmi lama dhigi karo haddaanan af lagu dhigayn luqadooy doonta ha aatee afna ma soconayo haddaanan la cilmiyeynayn oo si cilmiya aan loo qorayn aan loo higaadinayn oo loo shaqlayn oo loo habaynayn marka wax ay isdooninayaan malaha
cilmigana afku waa u baahan yahay afkuna cilmiguna waa u baahan yahay labadoodaba habdhismeedkooda waa isu baahan yihiin intaasaan kusoo koobaya بسم الله أف يا علمي هرتا أف هدد مركي هدا لما حنا سيدا بروفيسور شاغي وان كلمة كلية وتاغن ويه أما أري واد تاغن كلية ويه وحتى لوغو مغعابي أفكا هدا أف بين نقانا كان كو هادلينو أف أين نقانا marka wixii ka soo baxayna waxa loo bixiyay af baa loo baxshay cilmi markii la afka markii la yiraahdo hadda waxa lagu hadlo oo waa un waagi hore waxa la isku afgaran jiray waxay ahayn aan luqad jirin rasmi dadku isku afgaran jirin si la isu afgarto luqadoo dhan asalkeedu waa is afgarasho weeye ama afku waa wax la isku afgarto waa wax la isku fahmo waa waagii hore aan luqadi jirin gacmaha ayaa laga wada hadli jiray iyo indhaha iyo baa listus jiray markii cilmiga la bartay ayaa maaragtay isgaarsiin keliya wey laakiin cilmi maaha cilmiguna ilaahayba waa kan leh aayad qur-aanka ku leh hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun macnaha wixii in sida profesorku sheegay si dheeraad ah waxa in loo galo oo si dheeraad ah in loo barto wixii weeye oo hadda waatan ay jirto sidii uu sheegay il hadda dhaqaatiir badan baa jira soo maaha oo isha keliya u gaar ah aan inta kale jirkii waxba ka aqoonin inay ishaas bartaan sida ay waxay ka kooban tahay waxay tahay dhammaan inay bartaan mid dheg buu bartay waa cilmi iskama aha dheg dhibta jirta waa u imaan doonaa laakiin afka maalan qolo walba waxay leedahay af bay leedahay hadda inagu af baynu leenahay biyoynu nirahnaa inagu nirahnaa waa biyo talyaanigu wax kaluu yidhaahdaa luqad kasta ama qolo kastoo caalamka jirta laakiin waa maxay sidaan sheegay hadda waa isgaarsiin keliya weeye iyo waa biyo laakiin luqaddu markii dhinac laga fiiriyo waxa lagu hadlo ma aha wax cilmiya maaha waa wax isgaarsiin keliya cilmi markay tahay waa in wixii aada loo dhex galo oo aada loo barto oo waxay ka kooban tahay iyo waxay tahay iyo laakiin dadkeen waxaa laga yaaba inaysan waxaas aada u aqoonin oo hadda tusaale haddaan bixiyo beri baan waxaan ka qayb galay meelahaas dibadda ah waxaana loo yeeray annagoo ilaa 50 qoys ah dadkuna waa fara badan yahay marka 50kii qoys oo Soomaalida ah oo loo yeeray ma u malaynaysaan anaa ka imid iyo islaan soo luntay oo meesha gobolkaas aan ku noolayn waxaa yimid waxaa la keenay warbaahino baa la keenay qofkii luqadaha ajnabiga u qaabilsanaa gobolkaas oo dhan baa yimid maxaa la baray waxaa la yiri waxaa la yidhi ujeedkaa wuxuu ahaa la isugu yeeray 50 qoys oo Soomaalida ah waxaa laga yaabaa markaan Soomaalidu ilmo badan waa tan dhasha waxaa laga yaabaa kaba soo qaad inay labo reerkiiba markii la soo koobo ama saddex imsay noqon karaan saddex qof oo lagu dhiftay 50 intaas qof baa loo yeeray oo waliba waalid ah waxaa loogu yeeray in caruurtooda loo baro af Soomaali loo baro dhaqan inay leeyihiin loo baro taariikh inay leeyihiin loo baro oo macallimiin loo qabto lacag fara badan lagu bixiyo oo malaayiin lagu baxsho maxaa keenay in anigu kaligay imaado waxaa keenay waxaan Soomaali ka baranaya in la yiraahdo waa keentay Soomaali maxaan ka baranaya ana aqaan waxna kuma qabsan marka waxaan rabaa inaan maartay intaas yar aan uga baxwa baadsantii توحيد وبدين بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله فرق udhaxeeyo cilmi iyo luqad cilmiga waa process ama waa hab waaye yani leh dhamaad
bilow iyo dhammaad leh waxa waaye marka habkaas qolo walba hab ayay raacayaan markii laga hadlayo waxbarashadoo kale waa aragtay saddexda qaybood waxbarashada nidaamiga midda dadban iyo midda xorka waxa waaye marka waxbarashada dadbaneed waa aragtay waa garaaf kor u kacaysaa cilmiga lagu baranaya dugsiga hoose cilmi dugsiga dhexe cilmi dugsiga sare qaybihii kala duwanaa saddexda qaybood qaybihii xirfadaha iyo qaybihii farsamada iyo qaybihii dugsiga sare oo mataqaanaa nidaamiga ah waxa waaye marka qolo walba meel gaara ayaa xirfado gaara ay baranaysaa marka cilmigu waxaa xirfad qofka uu baranayo oo mataqaanaa oo skill ah oo xirfadaas oo mataqaanaa u leexanayo marka cilmiga marka xirfado la baranayo waaye oo qolo walba mataqaanaa si gaar ay takhasus u sameynayso sida akhyaartu ay sameysay ay sheegtay afkana waxa waaye luuqadii oo lagu baranayo cilmigaas waa afka haddowna luuqadda haddayna af wadan oo wax lagu barto waxa waaye dhibaataday leedahay manhajka soomaaliya marka la fiiriyo waxaad arkaysaa luuqadda soomaaliga laba qaybood ay cayaartaa mid waxa waaye muxuu ahay luuqadda waxa la yidhi wadanka oo wax lagu baranaa af soomaali waa lagu wax baranaa ta labaad waxa waaye luuqadda waxa waaye waxay leedahay sida yani luuqadaha kaleba oo la sheegayna waxay leedahay structure ay leedahay naxway leedahay waxay leedahay suugaanay leedahay waxay leedahay xirfado mataqaana la hormarinayo marka sidaa daraaddeed waxay luuqad ahaana cilmigaana way ximbaarsan tahay oo sida luuqadaha maadooyinka kale ayay cilmi ximbaarsan tahay oo lagu baranaya tan kalena waxa waaye waa luuqadii oo wax lagu baranayo oo mataqaana mana Soomaaliya oo kale hadda waxa la yiri dugsiga hoose iyo dhexe sayniska waxa waaye af Soomaaliya lagu bartaa cilmiga bulshada af Soomaaliya lagu bartaa waxa waaye marka ardayga waxa la yiri si af Soomaaligana aan loo dayicin ardaygan luuqadiisa afkiisa oo sacbaaga biyo looga dhargaa leeriye luuqadiisa ku barto marka luuqadu waxa waaye waa communication waaye isku xir waaye luuqadana sida la sheegay laba qaybood qaybo oo verbal iyo non verbal ka afka qalaad yaraa luuqada jirka iyo luuqada mataqaana afka marka luuqada la'aanteed waxa waaye dadku xiriir ma yeelan karaan waxna lama baran karo luuqada la'aanteed marka farqiga u kala dhaxeeyo waxa waaye cilmigu waxa waa xirfado la baranayo oo kala duwan waa xiriir waaye iyo barasho labadaba inta wata محمد علي توحو يوحى القضاء لها ساشاس mahad celinaynaa waana waxa markasta loo baahan yahay in mataqaana dalka xawhay laga sameeyo haddaan soo noqdo su'aashii anigu waxaan qabaa su'aasha waxaa ka horeysaan qabaa su'aasha marka hore erta inaan kala fahamno aqoon iyo cilmi wax la yiraahdo inaan kala fahamno aqoon waa wax guud waaye qofka reer baadiyaha oo miyiga iska jooga aqoon buu leeyahay dhaqan uu yaqaan wax buu yaqaan il dheg waxaas wuu yaqaan Soomaaliya marka aqoonta ayaa cilmigu uu ka duwan yahay aqoontaas oo waa aqoon adilla ku dhisan oo tajaarib iyo adilla ku dhisan way cilmigu marka taas horta waxaan leeyahay waa inaan fahamnaa aqoon iyo cilmi markii la isdhinac dhigo aqoonta wax guud way qof kasta adduunyada dhan ma taqaanaa waa la soo gudbiyaa laakiin cilmigu waa aqoon adilla ku dhisan oo wax kasta daliil cad oo leh ayaa loola jeedaa taas horta waxaan uga baxaya cilmigi afka u kaalay afku laamahaas aqoonta oo la cilmeynayo ka qayb galaya sida professor Abdullah sheegaba afku waa la cilmey kara Soomaa afka cilmiyeena u baahan yahay marka laamaha la cilmeynayo oo cilmiga waxa adillada loo raadinayo aqoonta uu kamid yahay waxa kaliya u dheer waxa weeye afku waa weelka aqoonta cilmiga iyo aqoonta weeye marka anigu intaas aan soo koobaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asiyo professor Abdi Ahmed Maxamed Baaqo xareer naga soo aan u mahad celiyo Green Hope iyo qabaqaabada ay sameysay maartay waxaan kaloo rabay wax yar inaan iyadana aan wax ka iraahdo ay dadkan meeshaan fadhiyo waa dad wada professor ah aan ka ahayn aniga marka waxaan muxuu ahaa professornimada lama bilo la qeysan kara maartay marka waxaan jeclaan lahaa in uu
hadda soomaalida maarata markay bixinaysay watan diinta iyo fidinteeda iyo meesha laga bilaabo waa dugsiga macalinka dugsiga jooga sheekh lama yidhaahdo macalin dugsiyaa la yidhaahdaa wuxuu sheekh noqdaa markuu shuruudaha ka soo baxo oo uu ku sifoobo sheekh ku sifoobo noloshan kalena waa sidaas maarata way fiican tahay in adoon waxba aqoon lagu yidhahdo sheekh baa ta haddii lagu yidhahdo waa iska jeclaan lahay laakiin waxaan jeclaan lahaa haddaan ku jirno adduun oo cilmi aan ku jirno waxaan malaynaa xoogaa reer greenhob waxay yidhaahdeen ninka odagaa haddaa ka reebtaan arba xanaaqaa maarata saasaa meesha laigu soo daraan malaynaya laakiin ma xanaaqi lahayn qof walba wuxuu yahay lagu sheego mataqaana waxyaabaha meelahaan ka dhunsannahay ka mid tahay maarata intaas waxaan rabay xoogaa inaan baraarujin ka dhigo sida hadda loo soo sheegay un banaano waxyar ku dari lahaa maarata waxaa gaar ahaan professor tooxo hadda uu kala saaray aqoon iyo cilmi buu kala saaray mataqaana aqoontana waxaa midda guud cilmigana midda oo loo yeelay maaragtay tilmaamaha cadeymaha leh ay la socdaan maarata aniga waxaan dhihi lahaa cilmiga guud ahaan wuxuu yahay fahamka bani aadamka uu ka qabo sirta adduunka oo isugu jirta noolaha iyo manoolaha iyo bani aadamka xiriirka ka dhexeeya bulshooyinka kala duwan iyo qofka iyo waxa aan ka fahamsannahay ayaa cilmiga uu yahay maarata afkana waa midka dadka ay isugu gudbiyaan fariimaha iyo xogta ay ka hayaan waxyaabo badan oo ayaga ka dhexeeya gaar ahaanna afka wuxuu qiimo u leeyahay gudbinta cilmiga laftirkeeda mataqan waana meesha anaga uu naga soo galayoo doodan haddeertaan xidhowta ay imaan doontaan u malaynaya aan intaa ku daayo waxaan sugaynaa su-aalaha soo socda asiya professor maxamed muuse mataan dadka runtii su-aashan wixii laga dhihi lahaa waa la yidhi sida aan dareemayo su-aasha in la dhex mariyaana waxay macnaheedu tahay in la raadinayo aragtiyo kala duwan oo la xiriira su-aashan jawaabteeda anigu afyahan maahi oo dadka afka yaqaana oo ku takhasusay maahi laakiin marka laga hadlaayo af iyo cilmi waxay kala yihiin anigu waxaan u arkaa afku inuu yahay qaabka dadku ay ku wada xiriiraan oo ay xogaha isugu gudbiyaan cilmiguna inuu yahay maxaa la yidhaahdaa ii sheeg fahamka dadku ay ka qabaan adduunyada marka loo fiirsho sida professor Bafo uu sheegay oo ah in maaragtay maxaa la yidhaahdaa noolaha iyo manoolaha intaba sidoo kaleeto cilmiga waxaa ka mid ah fahamka dadku ay ka qabaan iyo faahfaahinta ay ka sameeyaan aragtidaas si fudud haddaan usoo aruursho caalamul carab ama carabtu luqadda afka carabiga way ku hadli jireen inta aysan diintu imaanin ka hor marka waxaan dhihi karaa diintu waa cilmi afka lagu keenana waa fahamkii qaabkii dadku in luuqaday ku hadli jireen lagu keeno diintu waxay fududaynaysaa fahamka nuxurka diinta ay fududaynaysaa macna ahaana meesha waxaa kaaga muuqda labadooda inaysan kala maarmin maxaa yeelay afku wuxuu fogeeyaa fahamka shayga fahamka cilmiga ayuu fududeeyaa oo fogeeyaa qofkuna macnaheeduna waxa waaye haddii qofku luuqadii oo u dhashay ama luuqadii oo ku ababay aan cilmiga lagu barin fahamkiisa inuu qabyaya macna ahaan saasay noqonaysaa waana sababta keentay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan historyga ku haynaa ama taariikhda ama daliil aan ku haynaa inuusan waxna qori jirin waxna akhri jirin haddana qur-aankan aan hadda baranno isagaan aan maaragta maxaa la yidhahdaa na barayo macallinkii uu noo ahaa meesha marka maxaa kaaga muuqda waxa fududeeyey maxay ahaayeen maxaa yeele qur-aanku wuxuu ku soo degay luuqadii isagu uu ku dhashay uu ku hadli jiray nebinimadiisa ka hor sala allahu alayhi wasalam meesha marka waxay iska soo qaadanaysaa waxay tahay in cilmiga iyo luuqadda waa sax dooda waa gaar cilmiga luuqadda ma la cilmiyey karaa iyo ma leedahay adaabiyad iyo haa way jirtaa laakiin taas doodaas hadda ma taagna waxa waaye cilmiga iyo farqiga u dhexeeya iyo maxaa la yidhaahdaa afka
micno ahaan sida ugu fudud oo aan anigu dhigi kara waa saas aad umahadsantihiin أستاذ وعمسان أنت ميكروفون كبير سؤال كان عربانا رأسيو وهو بالله محور يعني أرتدى ذلك الصومالية كقبا إني أقوى وحقوقها aad iyo aad u mahadsan tahay anigu marka laga hadlayo horta aragtida ama ra'yiga dadweynuhu waa muhiim ra'yiga dadweynuhu wuxuu ka turjumaa shucuurta qofka ku jirta iyo waxa ka dhex guuxayo ka turjumaa taasna waxa waaye macnaheedu markaan anigu u dhabagaloon arkay saaka waxaa ka jira Soomaaliya dhaqan ah ama aragti ah in qofku afka Soomaaliga uusan ku hodmi karin marka laga hadlayo dhinaca cilmiga aragti ahaan dadku waxay qabaan inaysan hodan ku noqon karin luqad afka Soomaaliga cilmi ku qoran taas waxay keentay marka ah inuu qofka Soomaaliga ah aaminsan yahay ra'yi ahaan cilmiga la barana hadii la yiraahdo inuu ku baxo luqad shisheeye waliba luqadihii shisheeyuhu waa noo kala sokeeyaan هذا اللغة أتك الله حسية جامعة هي مجالس وحبرشة عن كو أرجناهي واللغة إنجليز كو لغة إنجليز كنا اللغة أنا حدنا نلاله حدودنا نلاله ما أركت أهان عن سكومت نقكرنا إيفن حتى عملها قاركود حكمتها قاركود مهما يوينك عن سكوافق كرنا ما شادرات دي دقفك الصومالي وحو آميسية الرأيهان هدوسن لغة إنجليز كحكو برنينين إنه سن حب بركرين ومد كوبات مد اللبات رأي قدتكو أي قبان وحواي إن أفك الصومالي أن لغة درجي كرين علمي أدونك يالا محايا لي قفك الدليش وهو الرئيد وكسينا وحواي إنه كيرهدو علمي وحكو قرية إنجليز وكو قرية عالم كردان على الله قبرتا لكن علمي عالم كردان ما وضع قصي ماشا مركا لغا هالله سؤالان هذا Soomaaliya gudaheeda markii la joogo ayaa cilmi kala duwan u baahan yihiin dadka gobolada kala duwan si ugu nool yihiin dadka qaar waa xoolaaley dadka qaar waa beeraaley dadka qaar waa dabato qof walba marka la barayo cilmi wuxuu ku fiican yahay meesha uu ku nool yahay cilmiga quseeya oo wax soo saar kara in la baro shaadiraadeedii waxay aaminsan in cilmiga looga dhargi karin afka Soomaaliga fikirka kaleete aan ku arkay Soomaaliya aragti ahaanta aan ku arko waxa weeye in qofka Soomaaliga ahi oo aaminsan yahay qofku haduusan luqad shisheeye ku hadli karin inuusan wax cilmiya aqoon macnaahan hada markaad fiiriso jaamacadaha kaleeto manhajta ka baxdaahay luqad Ingiriiska ku qoran yihiin hadana macallinku marka uu ardayda la hadlaayo wuxuu sharaxayo wuxuu ku sharaxaa af Soomaali ardaygu haduusan afki Soomaaliga aadan mas'alada ku fahamsiinin afki Ingiriiska kuma fahmaayo maxay isaga naftirkiisa ku taqasusin oo aan ku baranin cilmigii haddana sidaasay tahay luqadii oo nuxurka kula baxayay oo maaragtay maxaa la yiraahdaa oo shayga oo maaragtay maxaa la yiraahdaa ku fahmi lahaa saluuga uga jira aragtida ugu dambayda professoradan u hambaynaa aragtida ugu dambayda ee ra'yiga ee dadka ka dhex muuqata waxa waaye af Soomaaliga inuu af un inuu yahay in loo arko inuu yahay dhaxal looma arko inuu yahay dhaqan looma arko inuu yahay hidde looma arko inuu yahay hayb ama magac inuu yahay looma arko waxa loo arkaa af un kaliya inuu yahay anu intaasan ku soo koobi lahaa aad u maasantii waa maasantahay arinta farsamo dadka waxa aan weydiiyo ustaad Maxamed Qaar Cali su'aashaas waxa ku dareemaa xaqiiqda aniga markii yaraa waxbarashada baranayay waxaan ku bilaabay luqadda Talyaaniga markaan xoogaa waday luqadda Talyaaniga way ilaaha weysay haddana waxaan galay iskuul oo luqadda Carabiga wax lagu baranayo aniga iskuulkii dhiganayo ayaa waxaa isbedel ku yimid waxbarashadii dalka oo la yiri waxaa lagu baranayaa af Soomaali xaqiiqda markaan gadaal ka xisaabtamay waqti dambe oo shaqada aan bilaabay macallimanimada oo aan wax kala saari karay intaas arday aan ku soo ahaa weel wax lagu shubayaan ahaa laakiin markaan dambe ee aan xoogaa dareemay in aniga naftigayga noqdo kii wax shubayay oo weelku shubayay noqdo ayaa waxaan ka fikiray saddexdii luqo ayaa wax ku soo baranayay iyo waxyaabihii aan ku soo baranayay iyo ahmiyadda iyo saameynta ay ugu yeesheen xaqiiqdii ma jirin markaas manhaj Soomaaliya oo markaan Carabiga dhiganayay ama Talyaaniga dhiganayay ma jirin labadaba manhaj af Soomaaliya oo wax lagu barto laakiin gadaal uu nooga yimid marka alxamdulillah markaas maxaan baranayay waay marka waxa aan baranayay yay ka tarjumayeen waxay ka tarjumayeen luqadda aan wax ku baranayo dadkooda
iyo deegaanadooda iyo cimilo waxaas ay maaragtay ka turjumayeen laakiin markaan galay af Soomaaliga aan bartay oo wax laygu baray waxaan ogaaday dibli inaan aqoon fiican oo faahfaahsan aan heli karo dalkaygana aan wax ku baran karo xaqiiqda kalama saari karin xataa nahri shabeelle meeshuu soo maray meeshuu ku dhamaado xataa kalama aqoon intaan af Soomaaliga ku baran ka hor marka qof waliba in ay luqadeeda wax ku barato wax kaga qiimo badan nooc doonaada ama Shiineys ahaado ama Carabi ha ahaado ama Ingiriis ha ahaado ama Soomaali ahaado wax kaga qiimo badan ma ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay luqadiina wax ku bartaan leeyahay taasa idinku qiimo badan assalaamu calaykum Abdallah Aman Masrur dadku iyo ardaydu iyo dadka ardayda marka wax barashada ay aqoon hooyo bartaan marka shacabka afkiisa faa'iido dadweynaha marka dirsan ay ka qabaan inay afkooda ku bartaan inta ugu badan bismillah waa la sheegay wixii ay ka qabaan dadka maaragtay hadba sidii loo haga ama madaxda ay u tusto ayay maaragtay u qiimeynayaan waxoodii marka wax yar haddii maaragtay anigana wax yar aan ka sheega taariikhdeedii يعني أفتلانو صبرنا عربي مركب مشكلة وحنا قمنا محن في هذا لبا مشكلة قفك أرضي وحبرنا لبا دبعت أيام أرتي ورتاجن مذو مادتي في عصب إيو أفكي أو هذا أفشي شيء هاي لبا عبق بضود وهاي تاسن صمرنا لكن أرضي هدوف بلا أفكي سهوية وحميش كبحاية فهمكي انت بدن وفهمايا وحي اللي شيغايا xoog wuxuu saaraya marka aqoonta marka uu baranayo ayaa maartay taas fududeynaysa marka dadkii inta badan lama fahamsana ama lama rabo taasna waa xaalad maanta ay taalo xag dhaqaalaha ahaato ama Soomaalidiyo yaraysanaysa إلا عادي ونقطة وح خلط هدي معلوم والبلا أديك سدا عادي ونقطة أفكان إن أف إنجليزي لا أديك سدا أفكي بوسكي وقالوا وحتى وحن أركاي محن كيرا هذا شركة دا اللي يرا هذا أركاي باور كقرن سافي ووتر مركب ووتر أو صومالي اللواية هذه شركة أي كقران سافي بيها سافي ملاها لما قيمنا تاس مرك أرنتا كلية وحي كتوسيستا سيدا الصومالي دا وفكريس ونكا شركة وحواسي لو سوجي تدوينها أف إنجليزي أيا قيمة له أف صومالي قيمة ماله رانسو كوي هذا بسطة بس محمد بسطة رابع محاط تقدر يسترشد bulshada guud ahaan hadba dadweynaheenu sida uu yahay aqoontiisu sida ay tahay ayaa mar walba wax cabirkooda waxa ay wax ku fiiriyaan ama fikirkooda u noqonaya mar haddii bulshadii boqolkiiba 80 ay tahay bulsho aan aqoon lahayn markaas waxa ka soo baxaya waa inay waxay rabaan iska yiraahdaan oo aysan aad ugu muuqan waxa dhabta oo jira oo xaqiiqo oo cilmiga inaysan u muuqan marka waxa la dhihi karaa fikradda guud oo bulshadu ka qabto in luqadeena ta yare aan la qiimaynin oo bulshadu ay fikrad fiican aysan ka haysan aqoon la'aanteena baa keenaysa bulshadeena aqoon la'aanteeda baa keenaysa haddii aqoon bulshadu boqolkiiba in fiican ay ahaan lahayd waxaan isleeyahay waxay noqon lahayd wax maaragtay fikirkaasi wuu dhammaan lahaa ama marka ugu yara waa yaraan lahaa waga bax waxa waaye ardayga haddii uuna Soomaali English uuna baran macna shaqo ma helayo camal waxaan xustaa aniga dadkii hay'adda yuunka u shaqeynaa bilaabay af Soomaaliyaan buugta ku daabacnay oo dugsiga hoose waxaa dhacday markii iskuulaadkii ay xoogaa yar joogeen inay bedeleen ay dhaheen af Soomaali yani waxa English u bedeleen waxa ay turjumeen hay'adaha ugu dambeeyay oo iskuulaadka oo concern ya ugu dambeeyeen iyo matqan marka yiraaheen aniga manhajka Soomaaliya ku soconayna hay'adaha qaar
waxaa dhacday iskuulaadkiin ardayda lagala baxay oo waalidiinta ay yidhaaheen war haddii anaga af soomaali wax lagu dhigaa mataqaanaa iskuulaadka kale ayagana dhammaan waxay danta ku qasabtay inay mataqaanaa ay ingilish u bedeshaa xataa hay-adaha iskuulaadka ugu badan waxaa luqa alcarabiya ayaa sidoo kale waa laga leexda haddana maadooyinka cilmiga lagu bilaabay lagu reebay inta kale waxaa laga dhigay science marka yani shaqo qofka ardaygan ma helaayo ta kale waxa waaye ammaan qofka af soomaaliga hadduu ingilish yaqaano inuu qof ammaano yahay oo mataqaan hadda derbiyaasha oo dhan waa inglisha ku qoran qofka xataa ma yaqaano ingilishka gabar aan weydiiyey family room meel oo ku taal maxaa laga wadaa waxay tiri ma aqaanay tiri madmadoobo ilaah ku yaqaanay tiri marka yani qofka magacaada waxaas oo meelaha ku dhegsado waxa waaye miracle berber aan arkay tamajaro oo mucjiza af soomaali waa lagu qori karay marka waxa waaye qofka wuxuu ammaanay yahay waa aragtay dadkeena markay ku hadlayaan macallimada jaamacadaha dhigtaan ama dal meesha horeba ka yimaadeen wax walba ingiliish oo dhex gelinaya oo aniga waxaan arrinaa impossible ay tahay haddii impossible implementation lama samayn karo haddii la sameyn waayna failure meeshaan ka dhacay marka af soomaali waa af soomaali ma ingiliish ma waxa waaye marka qofkii magacu qofkii luqadda yaqaan waxa waaye ingiliishka yani wuxuu leeyahay mudnaan gooniya iyo magaca gooniya uu leeyahay marka taasaa keentay shaqo la'aanta magaca gooniya soomaaliga ammaantiisa marka hadda jaamacad tusaalahaan oo ka dhigna gelin oo baajka ardayda dhibay qabaan waxay yidhahdeen ardayga haddaan yidhahdeen soomaaliga barta oo kula yaaba waa lagula qosa marka waxay tireen xirfadaha soomaaliga ayaan baranaa iyo suugaantiisa dhaha intaasaad ku fakanaysiin professor maxamed ali toga waa yaabaa inaan su-aasha weydiiyo oo uu ku dari lahaa بسم الله الرحمن الرحيم runtii soomaaliga wax ma lagu baran karaa mase wax laguma baran karo dad maskaxdooda xurtaa maba ahaba dadka markaad laamiga aad raacdo albaab kastee aad aragtid meel ka furan waxaa ku qoran ingiliisa ku qoran soomaalian yow la macaamila ma soomaaliya uma lamase ingiliisu la macaamila dad maskaxdooda halkaas joogto anigu ma arko in micyaar laga dhigan karo lagu cabiri karo soomaaliga waxaa lagu baran karaa mase laguma baran karo marka waxaan u arkaa dad aqoon-yahano ah oo aqoonta leh oo dad mustawo aqooneed meel fiican ka gaaray doodaas la dhex dhigo laakiin yaan dadweyne cabir laga dhigana qabo aniga professor cabdi axmed maxamed baaqo ayaa rabaa su-aasha inaan siiyo dhowrkaas aan noo hartay kadibna dadweynaha بسم الله الرحمن أي أنا سيجا وأنا مجا جوابيا haddii maanta jaamacadaha la yidhaahdo af soomaaliya lagu dhigaa kuwa joogaan waa kasoo tegi doonaan reerahoodana dagaal bay dhigi doonaan mataqaanaa maxaa loo joojiyay dhihi doonaan sababta maxay tahay waana sabab macquul ah qof kasta wuxuu rabaa inuu inta wax barto waxbarashadaasna wax ku dheefo sida wax loogu dheefayo waxaa weeye inaad shaqo hesho shaqooyinka maanta la qabto dhan ingiriisi ay ku wada xiran yihiin shaqooyinka ugu lacagta badan oo qof soomaali uu helo af ingiriisi ku helo af soomaali kuma helo haddaadan af ingiriisi aqoonin habeenka xalay tegay waa inaad shaqadaas fiican hesho aada hesho maarta dadka marka afartaa joogo oo af ingiriisiga wax lagu helo ayaa lagu wada dagaalayaa dadka dhan waxay rabaan inay wada meeshaas inay wada aadaan ay rabaan ma ku gardaran yihiin maya kuma gardarna inay saa u fakeraan xaqay u leeyihiin duruufaha ay la nool yihiin sidaasa suruufahaas ayaa khasbaya maarta waxa weeye qofkii wuxuu rabaa haddaad wasaaradda lagu geeyo xitaa caafimaadka haddii lagu geeyo wasaaradda caafimaadka waa hay-ad oo soomaali ay leedahay ma ahan hay-adihii oo shisheeyaha ma laha laakiin 40 mashruuc ee socda ingiriisi ay ku xiran yihiin ingiriisa wax lagu qoraa ingiriisa lagu wada hadlaa nairobi marka shir lagu diro waxaa lagu hadlaya ingiriiska baa lagu hadlayaa dadku waxay isu diyaarinayaan marka meeshaasay wada rabaan inay wada aadaan sidee wax looga bedelaa waa arrin kaleeto waxaan malay markaad su-aashaas aan geli doonaa mahadsanta intaan soo gudbinin su-aalkan aan rabaa inaan siiyo oo aad raacsiiso waajib noocee ah ayaa dowladda ka saarta afka soomaaliya ay hello waxay la tahay dowladda waxaa saaran waajibka ugu weyn ayaa saaran
af soomaaligan haddeertaan dadkan dhalinyarada waxay u badan tahay taariikhdaas xitaa ina si fiican looga sheekeen laakiin aniga maalan waxaan ku jiray dadkii af talyaaniga wax ku soo bartay maalintii ugu horreysay oo la fariisiyo iskool la fariisiyo ilaa jaamacadda aan kaga baxo af talyaani baan wax ku soo bartay jaamacadda markaan ka soo baxay waxaan bilaabay waxaan la kulannay jawi kaleeto jawi talyaaniga uusan waxba taraynin oo ingiriisiga uu shaqaynayo waxaan u wareegnay dhinaca ingiriisiga aan u wareegnay maarta laakiin af soomaaliga korriinkiisa iyo markaad fiiriso iyo sida uu maxaan ku rahdaa xoog u yeeshay dadka darsa ee horumarka af soomaaliga uu gaaray iyo darsa waxay kulli wada qirayaan haddii dowladda ayan gaari lahayn go-aan ah in siyaasadda waxbarashada ay noqoto siyaasadda af soomaaliga la isticmaalayo maamulka dowladda loo isticmaalayo af soomaaliga horumarkuu sameeyey ma samayn lahayn yacni dowladdu waxay tahay meel weyn ay kaga jirtay afkaas maxaan ku rahdaa qoristiisa iyo barbaarintiisa iyo fidintiisa iyo dadka maxaan ku rahdaa waxay ahayd sideetamayadii markaan gaarnay waa marka dhibaatada nagu soo korortay baan afkan hadda aan ka qaylinayno dadkaan sideetamayadii bay nagu bilaabatay bartamihii sideetamayadii wixii ka dambeeyey af soomaaliga dhaawac xoog lahaa gaare waana uu sii daciifaya isagoo daciif noqday ayay dowladdii naga burburtay 30 sanana waxaan ku jirnay markaa iska daa wareegaasaan ku jirnay maarta marka haddii la rabo marka hadda in lasoo nooleeyo dadkan caadiga ah waajibaadka ma saarna waajibka koowaad wuxuu saaran yahay dowladda soomaaliyeed oo qaybaheeda kala duwan leh oo ay ugu horeyso wasaaradda waxbarashada ugu horeyso maarta wasaaradda waxbarashadana sida muuqata doorkii fiicnaa oo la rabay inay ka qaado soo nooleynta af soomaaliga iyo dhaqankiisa inkastoo ay dadaalayso aad iyo aad ay weli uga fog tahay wax badanana ka maqan maarta waajibkaasi iyadaa ka jiifta maarta dadkan masaakiinta ah kale yaan lagu jeesanin maarta maadaama xagga farsamada ay uu yahay hal qayb oo aan haysano professor maxamed aadan wuxuu af aan dowlad leen ma socon karo af ingiriiska ood ogtihiin adduunyada waxa uu ka yahay dowlad baa wata dowlad ayaa wada dabada ka riixaysa kharaj badanaa lagu bixiyaa idan af aan dowlad lahayn ma jiri karaayo marka dowladda xilka koowaad iyadoo ka saaran yahay iyadan la rabaa inay ku darto waxyaabaha mudnaanta koowaad inay ku darto iyadaa laga rabaa professor xuseen tolo faarax hasiyo su'aashaas ab oo wax loo qoro oo farta af soomaaliga 11 waxaan la aqooni soo saareen oo la akhri kari 4 waxay soo saareen in carabi lagu dhigo 3 waxay soo saareen afka laatiinka lagu qoro dowladda ayay soo gaareen marka arinta dowladda ayaa guddi saartay haddana markay saartay dowladda maxamed saarba 1972 waxa waaye mataqaanaa wixii la isbarbar dhigay guddiga dib haddana loo saaray guddiga markii loo saaray waxa waaye go'aan ay soo gaareen marka go'aanka ay soo gaareen dowladda ayaa fulisay haddii ayna dowladda ahaa lahayn fuliskeeda ayna ahaa lahayn dowladda yani xooga badneed haddayna ay dhihi lahayn mataqaanaa af soomaaliga marka waxaa la yidhi laatiin ahaan afka laatiinka ha lagu qoro si barayaasha shaqalkan xarabka sidii loo xardhayo waay marka loo akhrinayo waxa waaye marka af soomaaligii waxa waaye ayagoo u sababayna dowladdii ayaa xoogga saartay marka dowlad af soomaali aan lahayn ma shaqaynayso qolo walba dhinacay u jiidanaysaa professor maxamed wasame iraabe bismillaah waxaa jira maamaha la yidhaahdo madaxa meel ka sarreysa oo la taabtaa ma jirto af aan dowladi wadani ma socdo mana soconayo markii su-aashu hadday ahayd waajibka dowladda ka saaran sida loo sheegay walaalihii iga horreeyay ay sheegeen dowlad baa af wadi karta dowladday waajib ku tahay in ay saarto weliba xoogga ugu badan la geliyo inkastoo hadeed hadda markii hadda aan yare ka baxo hadalka in yar dhibtii dhacday ayaana in badan keentay runtii markii la fiiriyo waayo waagii hore dadkii bilaabay alif ba ta loogu bilaabay soomaaliga loogu bilaabay markay secondary dhammeeyeen oo jaamacaddii ay bilaabeen intii bilaabeen ay bilowday baa dalkii burbura soomaaliya wax ku baranayay marka
af aan lahayn dowlad wadin ma soconayo. aan wax yar ku daraya professor Tooxo mid uu sheegay in dowlad la'aan aan afkaan soconaynin waxaa nagu filan tusaalihii uu professorka sheegay haddana waxay sii faahfaahiyo 1958 ayaa farta Soomaaliga la qoray 60kii waxaa la rabay in lagu dhawaaqo marka caatifadu waxay timid xag maaragtay qabiil ha ahaado ama mid maxaan ku yiraahdaa diin ha ahaato dowladdii awooday u weyday inay ku dhawaaqdo marka 9 sano ka badan maxaan yiraahdaa 1972 Soomaaliga mar hore la qori karay dowlad daciif ah ayaa qori weyday laakiin tii kacaanka ayadoo qorigeeda miiska saaran ayay tii lagu dhawaaqay la yiri farta laatiinka lagu qoraya dadkii laadiina laha waa u sacbinayaan marka waxay ku xiran tahay dadweynaha sida ay dowladda ay ula dhaqanto ayaa dadweynahana la jaan qaadaya أستاذ محمد فارح علي gabagabada ayaan soo gaarnay hal su'aal oo siman iyo su'aalaha dadweynaha ay qabaan ayaa inoo harsan marka inta aan u qaato ayaa ah waajib una samayso qaabkii uu ku hirgeli lahay kuna shaqay lahay loona dadweynahana loogu abuuri lahay inay luqadooda jeclaadaan mas-uuliyaddeeda ayadaa iska leh marka ayadaa laga sugayaa insha allah waa in dowladda ay qaataa aad iyo aad u mahadsan tahay horta qaaradda Afrika inta hadda la xaqiijiyay 2,000 oo luqadood ka badan looga hadlaa afka Soomaaliga hadda intaan ognahay 4 wadan looga hadlaa oo aan wada naqaano kan aan u dhalanay Djibouti, Ethiopia, Kenya, farkaliyaan dhihnay Yemen ku dar qayb kamid ah sidoo kale dadka iyaga anaga naga tagay ee caalamka ku faafana iyaguna sidoo kale to meelaha ay ku baraaran yihiin hadda Mareykanka oo kale to gobolada lama sinna gobolada aad looga hadlaa afka Soomaaliga afka Soomaaligu inuusan af laangaaba ahayn waxa ku cadeynaysa jaamacadaha lagu dhigto Indiana University qaybta African Studies-ka waa lagu dhigaa afka Soomaaliga Helsinki University of Finland waa lagu dhigaa London University waa lagu dhigaa oo UK ah Oxford waa lagu dhigaa iyo marka aan fiiriyay dhowr iyo 40 jaamacadood oo kale oo wadamada waa hormarin aan leenahay oo aan anagu luqadoodii aadayno ah iyaga dhigaya luqadayadii horta midaas in la sugaa la rabaa la cadeeyo waajibka dawladda ka saaran afka Soomaaliga in dadka wax lagu baro wuu cadiya afka Soomaaliga dastuuriyan waa la cadeeyay horta xeerarka dalka u yaala dastuurka ugu weyn dastuurka qodobkiisa 5aad waxa ku cad afka rasmiga inuu yahay afka Soomaaliga taas macnaheedu fasirkeedan wuxuu noqonaa in dawladdu ay ku shaqeyso afka Soomaaliga dhammaan xafiisyadeeda marka laga reebo wasaaradaha ay qusayso cilaaqaadka caalamiga dastuurkii dalka oo shuruucda ugu weyn af Soomaaliga ku qoran yahay xeer hoosaadka labada gole ee baarlamaanka af Soomaaliga ku qoran yahay xeer nidaamiyaashu waa ku qoran yihiin maxaa la yiraahdaa ii sheeg xeerarka cinqaabta iyo dhammaan maxkamadaha iyo kiisaska ku qoran yihiin dukumiintiyada dawladdu ay isticmaasho dhexdeeda isku dirto waa loo isticmaalaa even ganacsiga gaarka loo leeyahay afka Soomaaliga wax la isugu qoraa sidaas ay tahay ayay qolada ganacsatadu marka ay imtixaan ka qaadayaan dadka ay rabaan shaqo inay siiyaan English ku imtixaanan qaarna Carabiga ku imtixaanan qofkaas hadhowtii markay shaqada siiyaan xafiiska af Soomaaliga ku shaqeynaa qofkaas meesha marka waxa kaaga cadaanaysa afkii waa lagu dhaqmaa wuu jiraa nolosheena wuu maamulaa waa lagu maamulaa laakiin waajibaadkii ahaa dawladdu inay amar cad ka soo saarto oo la fuliyo xeerarka ayaa meesha ka maqan horta marka koobaad waajibkaas systemka dawliga ku dhaca wasaaradda waxbarashadana si gaar ah qorshahaas iska leh waana la sheego hadda wasaaradda waxbarashada xiriir manhajkii ilaa dugsiga 8aadka ilaa dugsiga dhexe ayaa af Soomaali lagu dhiganaa dugsigii sarana af Ingiriis lagu dhiganaa hadhowtii markuu jaamacadda aadana wuxuu rabo ku dhiganaa sheekadaas naftirkeeda wareeris ah ayada naftirkeeda wareerin ah oo ardaygii marba dhinac loo qumina
waxyaabaha jaamacadaha markaan dhigaya aan ku arko waxaa ka mid ah ardayda iyo macallimiintu inta badan way isdhaafsan yihiin si isku dhaafsan yihiin ardaygu waa xanaaqsan yahay dagaalkaa ka soo horeeya dayradaa ka soo horeeya cudurdaarkaa ka soo horeeya sababta ugu weyn oo keenaysana wax kale maaha luuqadda wax loogu dhigayo uusan fahmayn qofku marka haddii wixii aad u diraysay ama shaqada aad u dirtay ama layliga aad u dirtay uusan fahmaynin qaraarkiisaa soo kormaraya qofka qaraarkiisaa soo kormaraya arday kastaa wuxuu qabaa maxaa la yiraahdaa xanaaq uu qabaa sababta uu xanaaqsanaya asaga naftirkiisu ma yaqaan laakiin macallinku wuu fahmi karaa ardayda qaarkood su'aalaad weydiinaysa ingiliisha lagu weydiinaa maxaa yeelay hay'adda aad u shaqaysaa sidaas qabta hadhowtii su'aalihii markuu cabaar ingiliishkii yaraa uu xifdiyo wado gadaal dambe af Soomaaliya uga daraa ama meeshii bacaad ay ka gasho wuxuu uga saarana af Soomaaliya uga saaraa qofkuna marka mas'aladii inuu qaldaa laga yaabo af Soomaaliya dhex gelis la yiraahdo meesha marka laga fiirina waxa waaye dawladda waajibkaas u saaran yahay maadaama hadda fiiri shaqooyinkii oo kale uu sheegay professor Baafe dalkeena gudihiisa shaqooyinka laga qaadanayo dawladdu waxay amar ku bixi kartaa in shaqadaas af Soomaaliya lagu bixiyo imtixaankeedana af Soomaaliya lagu galo waliba fursado shaqo fara badan laga helaaho dad badan oo turjumaan la shaqaalaysiina si isku fahmaan midka afka Soomaaliga ku hadlayay iyo midka banaanka ka imaanaya ee raba afka Soomaaliga in maarata maxalli ama Soomaaliya inuu wax ka qabta raba labadoodii turjumaanna shaqo ka helay turk marka aad aragteen turkiga kale way noo yimaadeen Soomaaliyaan arkin qof turkiga wali ingiriis ku hadla ma aragteen dalka gudihiisa istaalada ku aragteen Soomaal ma ku hadlayaan mana rabaan mana yaqaanaan doonina maayaan sababtoo ah isaga wuxuu la imaanaa waxa loo imaanaa turjumaan oo la imaanaa meeshaasna qof Soomaaliyeed fursad ka helay laakiin adiga iyo dhakhtarku hadda toos u sheekaysataan waxa meesha ku baaba'aya fursad marka micnaheedu ma ahan inaan fursado shaqo ku tacbaynee fursadii shaqadan ku cayaarayna midaan oo dhan waxay noqonaysaa marmarsiyo marka shaqa lagu raadiyaa hebel waa lagu raajaa waa duruufo waa sax laakiin Soomaalida ayada ku mahmaahi jirtay waa baahanay waqtiga looma cuno afka Soomaaliga haddaan la caymin taariikhdeenna iyo diiwaankeenna iyo dhaqankeenna iyo ifan diinteena hadda arta aqlaaq xumada magaalada ka socota qofa wax fuxshiya la imaanaya baraha bulshada waa lagu amaana sababtoo afka Soomaaliga wuxuu ahaa ereyada ugu waaweyn af Soomaaliga ay bari jiray waxa kamid ah waxaas ceeb waay anuga goormee la baraa marka uu yariyo isagoo qaawan soo baxal dhigi jiray uftaada muuqata ceeb waay waxaas anuga halkaas looga habi jiray nidaamka looga habi jiray woo baaba dad waaweyn oo dhar la'aan ah taagan bari bulshada hore u sacaana la leeyahay you see wax meesha ka imaanaysa marka wax kala ma ahane haybtanadii lumaysa afka Soomaaliga wasaaraddu waxbarashada iyo dawladda oo dhani waa inay amar ku bixiyaan shuruucna laga soo saaro afka Soomaaliga in wax lagu dhigto marka laga hadlayo cilmiga dawliga ah laga hadlayo hay'adaha gaarka loo leeyahay ee waxbarashadu haday rabaan af shisheeye wax ku dhigeen laakiin dadka shacabka markay heli karaan waxbarasho dawladeed oo afka Soomaaliga ku baxaysa halkaas ay dadku u badanayaan aad iyo aad u wanaagsan maadaama inaan ku soo laabto mar hore su'aasha ugu dambaysa oo si siman aan siinayo oo milsado sikin oo maxaa la dhaxli karaa ayaa is leedahay in aan afka Soomaaliga wax lagu baran maxay tahay waxa la dhaxli afka Soomaaliga inaan wax lagu baran waxa laga dhaxli karaa sidaan hadda sheegnay dhaqan xumo laga dhaxli karaa waana haynaa gacantan ku haynaa oo mid muuqata waxa laga dhaxli karaa haybta qofka oo qaldanta dadka qaarkood adarka ay ku weydiina aad leedahay yaa tahay markaas ku leeyahay Soomaali American war Soomaali American wax la yiraahdo ma jiraan yaa taan ku weydiiyo qofka inuu yiraahdo waa Soomaaliyan ah laakiin American ku nool qofka haybtii lumaysa dhaqankii lumaya ifan diinta naftirkeeda aysan dadku la qaynin sababtoo ah alif wax mala iyo ba hoos hal kule iyo mid kor laba kule iyo af Soomaaliga aan la ku baray diinta markaas aan la qaynin laakiin hadda qaabka dugsiyada xataa wax loo dhigayo ilmuhu fahmi maayo waxa loo sharaxayo sida daraadeeda dhaqanka lumaya haybta lumaysa waxyaabaha cawaaqib xumada oo laga dhaxlayo kamid tahay faham darrada badanaysa dadka cilmiga waa dhiganayaan shahaadooyin way wataan laakiin wax ay fahamsan yihiin ma jirto cawaaqibka laga dhaxlayo kamid tahay inta kalena waxa uu deynaa professorada su'aashaas waa tii ugu dambaysa oo si kooban qofka inuu ku jiro waxaa waaye qofka wax la barayo waa weel wixii lagu shubo ayaana ka muuqanaya haddii marka la yiraahdo af kala oo wax ku barto ama dhaqan kale wax ku barto qofkii Soomaaliga ahay kuna dhaqan noqon maayo kuna dabeecad noqon maayo kuna wadaniyad noqon maayo xataa marka waxaan leeyahay waxaa wanaagsan in qofka afkeeda
lagu baro cilmiga ayaa wanaagsan. Asalaamu calaykum. وعليكم السلام بروفيسور عبد الله عمر عاشور بسم الله وسيداس waxaan wada ognahay maaragtay afka inuu yahay weelka xambaarsan ama kaydka maxaan ku yiraahdaa dhaqanka taariikhda diinta wax badan oo soomaalinimada maaragtay heybta Soomaaliyeed muujinaysa ayuu xambaarsan yahay marka afka hadduu meesha ka baxa weelkaas hadduu baxa wixii ku jirin waa dhumaya marka qofkii wuxuu noqonayaa sida hore loo sheegay qof kale ayuu noqonayaa dariiqii hadda waa lagu wadaa haddii dowladda aanan u soo jeesanin waa laga yaabaa Soomaaliga maaragtay iyo wixii la xiriiray inay dhumaan بروفيسور محمد بسام إهرام waxaan ku darayaa ummad aan af iyo dhaqan lahayn ummad aan lahayn af iyo dhaqan aan lahayn waa luntaa ummad aan af iyo dhaqan lahayn way luntaa waa dhamin بسم الله الرحمن الرحيم horta cidaan luqad ama aan af lahayn waa sidoo professorku sheegay ka kale waxa waaye haddii aan Soomaaliga wax lagu dhigin waxa waaye af Soomaaliga waa la barabixinaya waa baxaya waxa imaanaya luqad kale oo ajnabi ah ayaan dood waxa dhacdo la sheegay islaan ayeeya ayaa waxa loo keenay caruur mid Sweden laga keenay mid dalka Ingiriiska laga keenay midna waxa laga keenay Denmark ilmihii marka ayeeyada aydan af Soomaaliya taqaanaa waxa waaye ayagana isma fahmayaan aydan waa marka si dad dhigala camal marka dhacdaa leeyahay isku hadlaan marka wada hadlayaan marka communication ka dhamay oo ka dhaxeeyay meesha ka go'ay ayeeyadu waa dhigala wax dhigala ku hadla caruurta kuwa ayagu waa dhigolay isku hadlaan ayagi markii dambe odag wuxuu go'aan ku gaaray leeyahay af Soomaali ilmihiisa mar af Soomaali in la baro say wari ayeeyada iyo dadkeedu ay ula xariiraan waa la sheegay 2 sano iyo baro inta ku helay af Soomaaliga markay barteen xaflada u dhiga waa ka qayb galay wuxuu dhahay ilmeyga alxamdulillah dadkoodana waa la xiriiri karaan ayagana waa isla xiriiri karaan oo yiri markaan ayaan dhaxadaan dhinta maanta wax ma taqaan waa lagu martiqaad aniga marka waxa way af Soomaaliga waxa way marka hadii la barabixiyo waxa dhaca ereyada qaar xataa waa barabixeenba lama yaqaanaba ereyada qiyamka xambaarsanayso professorka oo qiyamka watay waa wada barabixeen maanta waxaan ku soconaa dadka iskimowska oo dhar kale ay camal oo bataqaana marka luqadii marka dhaqankii xambaarsan tahay waa edebtii xambaarsan tahay communicationka wada xiriirkii xambaarsan tahay waxay xambaarsan tahay mataqaana in mataqaana ganacsiga meel walba manhajka Soomaaliya dhibaatada jirta marka ku sheego aniga dadka manhajka wax ka qoranahay syllabuska aniga tooxoba waxaan ka bilownay policy manhajka waxa ku taala afka hooyo waa afka koobaad waay oo wax lagu bartaa ka labaad luqada carabi waay ka saddexaadna ingiriis waay maanta ingiriiska afka hooyo noqday marka wax lagu baray marka nasiib daradaas waa jirtaa dawladana garabkeeda Allah galo بسم الله الرحمن الرحيم واسيد بروفيسور u sheegeen tusaale cad waxa nooga filan in ummaddu ay lumayso hadii afkii laga tago dadka Soomaaliyeed oo qaaradaha adduunyada ku nool cashar noogu filan marka taas tusaale ka qaata ilmahoodii iyo mataqaan waxa dhaqankoodii taas cashar nooga filan marka walaalayaalow afku waa ummad jiritaankeenu way anu saasan qaba wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadda waxaa laga sheekeynayay dad Sweden iyo meelahaas ka yimid oo afkaan aqoon moogta waxaa soo baxay hadda kuwa dalka jooga dhalinyaro ah weligoodna aan meel ka aadin waxaa loo bixiyay local diaspora loo bixiyay maarta ayagoon meelna aadina afkii lagu kari laayahay maarta oo waxay rabaan inay ingiriis ku hadlaan oo balaayo mataqaanaa iska dhigaan oo maarta maxay taas ka imaanaysaa afkaan kaliyan ku mashquulsannahay mujtamacan meel xun buu gaaray meel xun buu ku dhacay maarta
dhinac walbana waa ka dhimanna maartay dowladnimadii baa naga dhimatay siyaasadeennaa dhimatay dhallinyaradeenni baa maxaan ku dhahdaa qalbigooda la bedelay hadaayta waxaan lahayn waajibaadka afka nooleyntiisa iyo waxaa saaran waajibaadka wuxuu saaran yahay dowladda maartay ya dowladda inay ka shaqeyso laakiin waxa hadda aan arkayno waa wax dowlad ka weyn maartay waxaa la yidhaahdaa haddaad rabtid inaad gaartid madax bannaani dhaqaale haddaad rabtid inaad gaartid waxaa shardi ah madax bannaani siyaasadeed inaad hesho madax bannaani siyaasadeedna micnaheedu waxa wey inaad talooyinkaaga adiga aad gaari kartid oo aad waxaa ku wanaagsan wax kala garan ma gaari kartid madax bannaani siyaasadeed haddaadan maskaxda ka xoreysnayn maartay soomaaliya waxaa haysta waxa wey hadda maskaxdii baana laga degay maartay maskaxdeena waa la haystaa waanana sogeyn maahana maskaxda waana laga haystaa maartay waa midda dhalisay ay sida la sheegayay boorarkan inay ku qoran yihiin maanta looxaantan inay af ingiriisi ku qoran yihiin in qofkeena siyaasiga markuu meel soo joogsado uu 5 kelmad markuu yiraahdo ay 3 af ingiriisi tahay ama luqad kale ay tahay waa midda dhalisay in local diaspora ay soo baxdo yani dhibkaas tirada badan oo weyn waxaan u maleynaa waxay u baahan tahay baraarug bulshada gudaheeda oo qof walba la rabo inuu maxaan ku radaa qayb ka ahada la rabo midda ugu horeysan aniga hadda aan dareemayna waxay tahay meelaha ugu wanaagsan oo wax laga bedeli karo waxay tahay dadka inay xorriyad u helaan inay afkaartooda ay soo bandhigaan isna aruursadaan meel kastana ay ku shiri karaan dastuurka waxaa ku yaalla xaqaasaa ku yaalla xaqa inaad hadalkaaga meesha aad ka sheegi karto xaqa inaad urursan kartaan oo aad ra'yi meel labadaas xaqba waxaan isleeyahay Soomaaliya waa sii daciifayaan mataqaanaa oo waxa iska badiba iska hor yimaada fikriga madaxa bannaan oo wax walba laga hadlaayo iyo dowladda markaas jirta way iska hor yimaadaan markii waxyaabahaas la taataabto dowladda iyada iska dhex arkaysa maartay inaan shaqo isku lahayn in maxaan ku raahdaa ay meesha wala dowlad kasta oo jirta waajibaad baa saaran dadka la xisaabtamayana waa dadweynaha dhalinyarada iyo aqoon-yahanka iyo marka in aad maxaan ku raahdaa baraarugaasi u dhasho aad baa loogu baahan yahay af Soomaaliga kaliya ma ahane meel kastaan ka dhimanay mataqaanaa dalkan wuxuu baahan yahay dib loo soo dhiso waa mahad celinayaa professorada halkan iyo barayaasha cilmigooda maanta aan wax badan ka faa'iidnay ee noo soo jeediyay anigu su'aal ayaan qabaa su'aasha oo la xiriirta cilmigii maanta caawa aan iraahdo saaka halkan laga soo jeediyay kaas oo ah barashada waxbarashada iyo afka Soomaaliga sida aan arkayno waxa baryahan dambe jiray baryahan dambe aad loo dhiirigelinayay waa lagu dadaalayay doodan oo kale iyo doodo badan oo kale waa la qabtay laakiin weli ma aragno bulsho ku baraarugsan oo afkii kor u qaadayso oo maxaan ku yiraahdaa halkaas ka muuqata maxaa keenay baraarug la'aanta bulshada su'aashaas ayaan qabaa mahadsantihiin maxaa keenay baraarug la'aanta bulshada dadkuwad aan si asraxsiyo raxiim waa salaama dhamaan martida iyo ka qaybgalayaasha su'aasheedu waxay ku socotaa professor Tuuxo daad wuxuu ku dhawaajiyay wuxuu dhahay manhajka Soomaaliga markaa keenna inaan dadka wax ku barno waalidiinta waxay bilaabeen oo dhahay in ardayda iskuulada ay kala baxaan waalidiinta waxay bilaabeen oo dhahay ardayda in iskuul kala baxaan maadaama af Soomaali lagu barayo ilmahooda waan ogsoonahay wadanka xaalad adag uu soo maray iyo meelo kala duwan oo soo maray professor saasay tahayna waxaa ka jira hay'ado oo waxbarashada ku shaqo leh sida FBANS SAF oo kale taan dugsiga hoose dhexe wax ku soo qaata carabi ku soo qaata manhaj carabi ah haddii la dhihi lahayo ciidan manhaj aan Soomaali wax ku barnayn haska baxdo macnaha waxa maxay ahayd koobnaan lahayd numberka wax bartay iyo dadka u baahan wax baranaya macnaha dadka raba inay wax bartaan koobnaan maxay u dhiciweysay in hay'adaha ku shaqo leh waxbarashada ama wasaaradda ha noqoto ama FBANS ama SAF dalada ahaataba ha noqoto maxay u dhihi waayeen manhaj Soomaali ciidan rabi inay wax ku barato yeesan wax baran markaas waxa soo bixilaad number sax ah iyo tiro sax oo wax baratay
wax ku baratay luuqadooda Soomaaliyeed maxaa loo dhihi waayo ha oo waaya wiil halkan fadhiya jiro ama kambon kuwii ka soo maya masoo min cilmi baaris waaye min afay ku saabsan min manhaj ku saabsan tahay marka ma isu soo koobi karo ha waxaan rabaa horta mid waxay ku socotaa professor sabca inaan su'aal weydiiyo professor horta maxay tahay marka la joogo iskuulaadka ama nidaamka waxbarashada la joogo af Soomaaliga marka laga bilaabo koowaad iyo Ingiriiska oo saddexaad ka bilowdo Ingiriisku fasalku ka dambeeyo wuu soo kordhaa Soomaalina fasalku ka dambeeyo wuu sii naaqusaa xiisadaha way sii yaraadaan maxaa sababay mas'aamaad systemka manhaj markaa sameeyeen ciladaas ma og is weydiiseen mise wasaaradda hawshaas sameysay oo waxaan ognahay nidaamka dugsiga xiisadaha la qaato iyo kan dugsiga xiisadaha la qaato iyo kan dugsiga way kala duwan yihiin su'aasha labaad waxay tahay ustaad mataan aqoon-yahankiina dhibaatada afka ka jira waa aragteen maxaad madal u qaban weyseen oo mudnaanta afka u sheegi weyseen dawladdan gaabiskeeda loo muujin waaye su'aasha saddexaad professor Bafo waxaa aad u yar ma aragno cilmi baaris ku saabsan af Soomaaliga inta badan cilmi baarista ku saabsan af Soomaaliga waxaa la arkaa oo kaliya dhaxareeb oo barnaamijyo kooban oo iska sameyso iyo professor Cabdulla iska masaakiin oo barnaamij kooban luq kala soo baxa maxaa loo waayay cilmi baaris ku saabsan af Soomaaliga oo la soo bandhigo ama bulshada isugu timaado maxaa loo waayay saddex su'aal way hal gabar rabnaa business السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومريم محمد عبد الرحمن سؤاشي waxay ku socotaa dhamaan professorada meesha fadhido waxayna leedahay sidatan sidaynu wada ognahay dal kasta oo dalkii gumeystay luqadiisa ayaa saameyn ku yeeshta haddaba anaga Talyaaniga ina gumeystay muxuu inooga saameyn badan yahay Ingiriisiga halkuu inooga yimid farsamada waa inay wax ka bedelaan qaybta farsamada ay waa lagu yeeray qaybta farsamada raalaha ay noo sii wada su-aashaydu waxay tahay halkee inooga yimid luqadda Ingiriisiga goormuu inoo yimid muxuuna okay su-aashaydu waxay tahay halkee inooga yimid luqaddan Ingiriisiga goormuuna inoo imaaday muxuuna oga saameyn badnaaday luqadda Talyaaniga oo wadankii ina gumeystay أشرف الأنبياء والمرسلين مقعي والدكتور علي عمر باتي كان صعد بحضة قال ليدا سومال بين لانت مقدشة سؤالي وحي كسعتا عبد المنصور يو بروفيسور توحو سؤاشا وقوه رئيس وحي تحي سيدي أفكا سومالي دمنايا لو بدبادن كرا مد اللوات رأسنا وحي تحي ومحي نوعية كلا دوان أفكا سومالي مد اللوات وحن ويدنا يا بروفيسور توحو ومحي dhibaatada maanta ka jirta waxbarashada Soomaaliya midda saddexaad oon weydiina ugu dambeyn waa maxay hadafka ugu weyn ee laga leeyahay waxbarashada Soomaaliya wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa aqoon-yahanka khubarada iyo professorada panelka inoo joogay sidoo kale waxaan salaamayaa inta ka soo qayb gashay martida oo ka mid yahay nin saaxiib ah ajnabi ma qamar nin cadaan ayaga raalaada hadii cadaan si kala kale carabi inuu yahay malaynayo maxamed jamaal mukhtaar marxaba oo ku soo dhaweynayna adiga su-aasheeda anigu ma badna qoqobaladii hadashay ama dadka hadlay waxay isku raaceen afka Soomaaliga dawlad la'aantiisu ma shaqeynayo runtii dawlad waa noo joogtaa oo dawlad waa haysanaa laakiin ma kaga habbooneed meeshaas inay ka yiraahdaan afka Soomaaliga dhaqaale la'aantiisu ma shaqeynayo taas in lagu daro ma ahayd mise ma ahayd waa salaamta wabillahi tawfiiq saddexaad ilaa foomfara aan wax ka qore waxa waaye marka waxaa loo baneeyey fasalka koowaad ilaa fasalka labaad in lagu xoojiyo af Soomaaliga oo ilmaha fasal markay yaryar yihiin marka hore fa Soomaaliga wax lagu baro kow ta kale waxa waaye af Soomaaliga maadooyin Ingiriiska kale manhajka markaa fiiriso wuxuu baxaa saddex oo baxaa laakiin af Soomaaliga 7 laga dhigay manhajka qoran fiiriya 7 laga dhigay 7 waxa waaye 6 maalmood ayaa la dhigayaa mataqaan iskuulaadka dawladda saa ogsoontiin manhajka waxaa ku jiro laga bilaabo sabti ilaa khamiis in la dhigo
xiisad zaa'ida jirto oo mataqaana oo lagu noqonayo mataqaana oo zaa'ida oo ardayga imtixaanka oo marka yani af Soomaaliga marka dhinaca manhajka haddaa fiiriso aad baa loo qiimeeyey laakiin fulintii dowladda mataqaana welina waxa waay dhibaatada jirto waa dalladaha waxa waay dalladaha mar walba waxay ku dadaalaan qaarkood ilaa hadda inay dhigaan u maleymaa buugtaan soo saaray waxa waaye marka weli meelaha qaar oo ingiliiska iyo waxaas iyo xormeyntiisa ku dhegayn tan kale oo ah mataqaanaa hay-adihii hore oo jiray maxay u suura gashay mataqaanaa inay hay-adaha mataqaanaa ay af Soomaali wax ku dhigi waan hay-adaha waxaa dhahay laba qaybood ay ahaayeen qayb carabtay wax ka qaadan jireen carabtana waxay ku dhiirigelisay in carabi wax lagu dhigo qaybna wadamada reer galbeedka ay wax ka qaadan jireen ayagana waxay ku dhiirigeliyeen in English lagu dhigo waxa waay marka labadaas qaybood ayay ahaayeen bilowgeed marka taas ayaa keenta ayadana inay qolo walba qolada kale ay la socoto oo mataqaanaa sida mataqaanaa mushaarka ama lacagta ama macallimiinta inay mataqaanaa Soomaali waxa ka dambeeyay waxa yimaadeen dalado oo wadanka daladii ayaguna laftooda ceebta ay sameeyeen waxa waaye af Soomaaliga hal xiiso laba xiiso ay ka dhigeen waxa lugta jiida af Soomaaliga dalada ugu horeey kowka oo Soomaali ah jawaabana soo koobna su'aalana aan soo koobna luqadda afka Soomaaliga marka hoos laga soo bilaabo kor u socodkeeda waa liitaa luqadda Ingiriiskana si xooli ay kor ugu socotaa annaga aragtidaas ma qabno annaga waxa weeyaan markii wax la qoraayo manhaj wuxuu leeyahay siyaasad uu leeyahay iyo syllabus laga qoro iyo meelo la raaco leeyahay mid labaad in luqadda Ingiriiska mar ka dambaysa ay si xoogaysato oo si adag loo sii dhigo galaas ka dambe ka adkaado sababta loo yeelayna waxaa ka mid ah maadaama ardaygan uu u socdo dugsiga sare fasalka koobaad dugsiga sare laga bilaabo ilaa inta dugsiga foorka wuxuu ku dhiganayaa luqadda Ingiriiska ayaa la yiri marka waxaa qasab ah in oo hoos laga soo dhiso oo luqadda si fiican looga soo dhiso taas waxaa keentay markii luqadda Ingiriiska midna waxaan rabaa inaan saaxiibkay kula dagaalamo daladaha wax dhimay daladaha waxay dhimeen mala dalka waxay wax ka qabteen waxbarashada loo baahnayna ka qabteen waqti loo baahnayna qabteen haddayna waxbarashada dalka gacanta ku dhigi lahayn daladaha Soomaaliyeed si toos ay u burburi lahayd ilaahay nagu maneeyay daladahaas waxbarashada dalka soo qabtay maanta dalka dadka ka shaqeynayo dhan mas'uuliyiinta 80% oo wadanka ka shaqeynayna waxa waa dadka ay daladaha waxbarashada ay soo saareen marka daladaha waxbarashada meesha lagu eedeeyo aadaan ugu xumaay wallahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh intaan kaliya kuma dhammaanin doodii way socotaa hadda waxaynu ka hadalnay laba qodob baan ka hadalnay labadaas qof waxay ahaayeen afka iyo tan kale ahayd dowladda waajibka saaran maxuu yahay saas darteed su'aalaheednu waa inay ku koobnaadaan intaas ma aha wixii kale ma aha in la galo waa si maarta warkii usoo koobnaado wixii si dhab looga hadda waxaa la galay bad baa la galay hadda marka qof walba ha isku soo koobo labadii shay su'aalihiisa ha ku koobo labadii shay oo laga hadlay oo kale ahaa waajibka dowladda ka saaran iyo afka labadaasa laga hadlay waa dhamay waa mahadsantihiin daladaha way dadaaleen waxbay qabteen la-aantoodna wax soconaya ma jirin laakiin luqadda af Soomaaliga waxa waaye luqadda qaarkood xataa ma dhigi jirin marka runta la sheego qaarkood ma dhigi jirin qaarkood hal xiiso buruufna ha loo tago marka qayb ka mid waxa Soomaaliga baabiyey waxa waaye Soomaali ayaa baabiyay afka Soomaaliga oo mataqaan oo bilayto ka ureysa أنا وعنو أركا وجوادها وآذياه أرتا دلادها يا وحبل آذين سابته وحاول دلاده دولة ما هيسن منهجنا ما هيسن محي دقا أرتا واحد وحلقات دقو ومنهج دلاده وحي ودين ديك جوجين بي آيان صوما مركز دوسن منهج جيرين أو الرعايو
dalladda waxay ka ahayd wixii markaa joogo hal dhigo hal shay inaad idiin sheegaan rabaa hay-ad tiri carabi ha lagu dhigo ma jirto taas aniga nin dallada iga xogaalsan ma jiro inta meesha jirto aniga uga xogaalsan hay-ad tiri carabi hala dhiga ma jirin dadka Soomaaliyeed iga carabiga jecel diintoodii dhaqankooda ku salaysan marka cid tiri amba hay-ad tiri aan hay-adda ugu weyn hay-adaha carabta aanu la shaqeyn jiray agaasimaanka ahay cid nagu qasabtana ma jirin mataqaan carabi dhiga ma jirin marka taasna waxaan rabaa inaad fahamtiin midda kale waxa weeye afkaan anigu waxaan u arkaa qolyahan manaahijta ayaa eedis kale oo la cararay Soomaaliga la cararay akaademiyaadka jiran aan qayb ka siinin oo kaligood oo cararay khalad ka yimaadaan iyaga askale doodaha ku soo qofka su'aalka la weydiiyay jirtay mikrofoonka maadaama hal haba haysano si aan farsamada iyo u beeqaamino waxaan malayna su-aasha waxay ku saabsanayd cilmi baarista afka soo ma ahayn waa run waaye maxaan ku rahdaa meel aan wixii dugsiyada la rabin laga dhigayba aan laga dhigin mataqaanaa cilmi baaristeedana waa sii daciifsa qiyaasta laakiin ay wasaaraddana waxaa muuqata inayna ahamiyad siinin maxaa jira wasaaradda waxaa hoos yimaada akademiyada hoos timaada akademiyadana laguma arkin cilmi baaris laguma arkin waxaan rajaynaynaa inay hadda u soo jeesan doonaa insha allah annagana waa ku baraarujin doonaa maaragtay cilmi baarista inay sameeyaan annagana dhaxal reeb ahaan waa sii wadi doonaa maaragtay inaanu wax ka qorno buuggeenu horreeyaa soo baxay waxaan ku bilownay taariikhda inaan kaga hadalno dadkii aan wareysanay oo afka iyo waxbarashada iyo waxaa ka mid ahaa labada professor tooxo halkan haddeertaan fadhiya professor Mansour iyo dad kaleeto fara badan mataqaanaa buuggeennan hadda waxaan isleeyahay wax badan baa bilow ahaan uu qofku ka faa'iideysan karaa waxaan rajaynayaa idinkan inaad soo raadsan doontaan hadduu ilaahay raad salaam waxaan ka jawaabaa su-aal socotay oo ahayd qolyihiina waxbarashadu ama aqoon-yahaniintu maxaad afka Soomaaliga dadka ugu baraaruji weyseen runta marka laga hadlaayo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii dalladaha dugsiga hoose dhexe sare maxaa la yidhaha dalladaha uga soo baxaan ka mid ahaa hadaayana warka waa la isku tuurtuuro waxaa la yidhi dalladaha le iyo ma lahan anigu mataan ahaan waxaan qabaa dalka dowladdiisa marka ay burburtay manhajkii wuu yaalay lama waayin isagoo yaalay dalladuhu yimaadeen waxayna doorteen luuqad shisheeye inay wax ku dhigaan marka meelay uga carari karaan ma jirto shalay markii ay ku habbooneed in afka Soomaaliga dadka wax lagu bari jiray barta ay ka raacaan ayay luuqado shisheeye qaateen ama carabi hala dhaamo ingiriis hala dhahe halkaas horta bahashu ka timid waxyaabaha ahmiyadda u yeelay oo dadku ay ku barteen kuna baraarugeen kadibna ku ballaaratan ayadaa kamid ahayd oo dadku ay ku qaarna ingiriis qaarna carabiga ku baxayeen labaduna laatiin ay ahaayeen waxaana la awooday manhajkii hore in hore loo raaco midaas marka dalladahay la taalaa meel ay uga carari karaan ma jirto horta midaas waa inaan caddeeyaan rabaa qoladeennan la yidhi waxbaa taqaanaane maxaa dadka Soomaaliga oo maaragtay maxaa la yidhaahdeen ugu maaragtay maxaa la yidhahdaa ugu baraaruji weyseen runtii su-aashaas wayna qabataa sida saxda wayna qabataa ciladeedana wayna fuushaa balse waxbaa kala darnaayo inagu jahligan la dagaalayn bal dadka afkii rabo waxa loogu dhigay inay horta dadku waxbarashada u qumaan oo ay waxbarashada yimaadaan ayaan horta midaasaan ka badi weynay biyahaasaan naga badnaa oo aan moosaynay laakiin wayna qabataa su-aashaas anigu waan aqaanaa aniga naftirkayga ka mid a dad fara badan oo artikalla ama qodobo qora af Soomaalina kuma qorna Ingiriishan ku qorna anaga naftirkayna waan isweydiinaa qofka maanta intuu cilmi baaris sameeyo cilmi baaristiisa Ingiriis ku sameeyay kadibna maaragtay maxaa la yiraahdaa raba in dad Soomaaliyeed fahmaan waa laba walxood oo isseegan waaye wayna naqabataa midaas way jirtaa su-aashaas intaasaan uga howlyareysanaa su-aashii ustaad Hadaamo oo ahayd maxaa dhaqaalaha xoogga loo saari waayey marka laga hadlayo dowladda marka la leeyahay anigu horta dhaqan waxaa nagu batay ayaamahan ah markaad tiraahdo hebel iyo hebel aan hadashiina waa isdagaashan yihiin kow waxaa lagu leeyahay yaa budgetka bixinayo horta hawshaasu howl waxay noqotay alfuleyl waleyl ay noqoto ma dhamaataan afka Soomaaliga dadka inaan wax ku barnaayo dhaqaale gaar ay u baahan tahay ma jirto kaliya haddii manhajkii dadka loo helo muqarrarkiina loo helo
buugaagtii iyo macallimiintii ku tababarneed inay wax dhigaanna loo helo kuwaasna waxaa iska lahaa nidhi wasaaraddii iskale ardayda in la yidhaahdo waxbarta afka soomaaligana wax ku barta midaasu ay noqoto albaabka furan waalidiinta ilmahooda waxbari waayey ee saaka guryaha ay u joogaan haddii la siiyo waxbarasho afka soomaaliga ku baxe oo bilaash ah beerkay ku qaadanayaan waana ka raalli wayna ka ducaynayaan marka aniga saas ila tahay inaanan dhaqaalaha xoogga la saarin ee xoogga la saaray cilmiga aad iyo aad u mahadsantahay doodan aan ku koobno mawduuca taagan aan ku koobno saddex gabdhood iyo ogolaanayaan siiyo shukri najmu iyo hamdullah waan mahad celinayaa jaamacadda Galmudug ee fursaddan nasiiday iyo barofesoradan waqtigooda soo horeysay nolol wadaagi lahaayeen aqoontoodii khibradooda runtii waxaa ka mid ah ardada af Soomaaliga jaamacadda Galmudug laga baxay sidoo kale xubin ka mid ah Soomaali baan wax badan ayaan soo baaro hayo islahay waxa lagu ka bakraa laakiin waqtiga la isku qoonsaday sidaa daraadeed waxaan weydiinteeda hore u galo anigoo ixtiraamaya professor Tooxo aragtidiisa haddana dalladuhu qaybta ay ku leeyihiin in af Soomaaligu heerkan gaaro ayagoo waxbarashadii ka dhiga afqalaad marna wala wada firi karo waayo dadkii ka soo baxaanahay waxaan ugu dhacay waxaan doonayaa marka haddii aan doonayno inaan waxbarashadii af Soomaali ku soo dabaalno waxaa bahalkii la yiraahdo asaan ku tiirsanahay dalladahaas oo bahalkii la yiraahdo ay fangareeyaan qolooyin kale dawlado kale ama hay'ado kale sidee ku dhacayda inaan ka soo tagno oo af Soomaali wax ugu barano maadaama aan xor u ahayn dhaqaalaheena oo dalladaheena iyo waxbarashadeena bareefadka in badan ay ku tiirsan yihiin hay'ado iyo dallado kale meelo kale laga fangareeyo taasoo haddii ay aan niraano xataa ka qaadno niraano dalladuhu kuma laha in af Soomaaliga ee laguma qasbin oo iyaga doortay in af qalaad ku bartaan dambiyeeba noqonayda ayadoo lagu qasbay inay doortaan haddii ay iyagu doorteen madaxdeena waxbarashadu inay iyagu af qalaad ayagoo cidna ku qasbin ay intaas ilaa koobaad ilaa ay tahay kun marka waxaan rabaa maadaama dawladdeena aysan xor ahayn dhaqaalaheedii dalladii aysan xor ahayn inaynu hal mar ka kala wareegno maxaan ku doorsanaynaa yaa noo gelaya booskoodii si aan xor ugu noqono oo u fakerno oo waxaan rabnaa u samayno afkeena wax ugu barano horta booskoodii aa noo gelaya hal xabaan raacsanayaa oo soo jeedina waxay tahay markii wax la baranayo in af Soomaali wax lagu barto waxaa kasii muhiim waxayna muhiima in af qalaad ayada xataa wax lagu baranayo maadooyinka cilmiga macallinka dhigaya uu yahay macallin afka oo wax ku sharxaya ardayda ugu soo gudbinaya afka Soomaaliga si fiican oo cilmiyeysan u yaqaan laakiin haddii macallinku maadada cilmiga ahayd oo ku sharxo af Soomaali oo tabta hooyiis kala yimid ama af suuq oo ku sharxo koow macnihi maadada waa lumay ardayga fak meesha soo wuxuu ka qaadayo waraar ka qaadayo laba af Soomaaliga dhaawaca gaaray markuu 30 eray maalin kasta u saxanbaariyo ardayga oo suuq ardayga inuu sidoo ku qaato marka muhiim waxaan u arkaa oo soo jeedi lahaa in la helo macallimiin luqadda Soomaaliga fahamsan oo cilmi ahaan u fahamsan oo maadooyinka cilmiga oo kale xataa ayagoo luqad kale ku qoran ku sharxi karo af Soomaali cilmi aysan ku sharxi karo si looga badbaado in ardayga cilmiga loo soo dhaxmarsiiyo waxbarashadii af Soomaali qaldan dabadeedna uu isna siisa ku sii dabaqo halkaasna ay tusbax furta ka sii noqoto aad baad mahadsantahay marka hore waa salaamaya bunayaasha iyo cabqariyaasha runtii waqtigooda qaaliga inoo horay iyo dhammaan inta fursad u heshay inay ka faa'iidaystaan dood cilmiyeedkan intaa kadib farxiin xudin yuusuf lama filaan loo garan ogyahay waa ku faraxsanahay bahdii ugu horeysay ee afka Soomaaliga ee jaamacadda Greenhope ay bixisay ka faa'iidaystay inaan ka mid noqdo intaa kadib weydiimeyga haddaan usoo laabto aniga ahaan waxaa jirta laba shay oo runtii markasta maskaxdeeda kusoo laalaabato oo aan isleeyahay haddii xal loo heli lahaa wax badan bay runtii afka iyo maaragtay waxbarashadaba ka bedel lahayd waa midda koowaade marka la eegayo tayada waxbarashada badi waxaad moodaa in la dhaliilo maaragtay waxbarashada Soomaaliya ma is oran kartaan ama ma isleedihiin waxaa qayb ka ah dhaliishaas in dadka aan afkooda wax lagu barin yacni oo aysan helin aqoon ku filan oo afkooda ah taasaana keenta in waxbarashadeena dhaliil badan ay ka imaato dalka iyo dibaddaba weydiinteeda labaad waxaa weeye marka la joogo dhanka shaqada waxyaabaha inta badan la isku xisho waxaa ka mid ah qofka inuu yaqaano afka qalaad waxaa la leeyahay luqadda Ingiriiska mataqaan ama luqadda Carabiga laakiin weli ma arag shaqo lagu soo xusay ama maaragtay lagu qeexayo qofka heerka aqooneed ee afkiisa uu leeyahay taana runtii ma la oran karaa waxa ay dhiirigelin la'aan u tahay dadka afka bartay yacni fursadaasi ay mudnayd inay ka faa'iidaystaan laakiin aad moodo in lagu xujeeyo luqado kale labadaas weydiimadan jeclaan lahaa inaan cabqariyaasha weydiiyo aad mahadsantiin aan ku soo gabagabeeyo faista taan qadaran gabadhaas somay ku soo gabagabeeyo
waqti kooban ayaan haysanaa oo 12 kan kusii soconaa duhurka su-aashaada iyo inta ku socoto toos u gal السلام عليكم دمان بروفيسور شرفت لي كسق قلي برنامج كان مهم كي أنا وسكوا وهي ما أنت حالي قال لي أفكا علمي جا بلشة الصوماليات سادات كده واخدين وحد هذين أفكا قلوب البعفة كوال شاء إيدو أساس إيه هاي هذني مركا والد كان أمامي والبعات تجينا هذا أنا أفكا واقب وهي مسقيبود قفل بوح وكذا أفكا على قيبود وما يمحتر هذا بقى إيدو قلوب البعفة أفكا على شاء haddana ma iyo maxaa tiray maxay tahay ma iyo maxaa tiray Soomaaliya horta niyo markaad fiiriso dalkeena waxaa jiray mowduuc ayaantan iska furnaay oo qof walba huba marka uu doonayo af Soomaaliga iyo Soomaaliya dhammaan waxbarashada ka socota inuu bahdilaad ku sameeyo mowduuca koobaad oo qaadanaya waxa waaye inuu yiraahdo waxbarashada dalku tayo ma laha iyadoo oo aan la keenin halbeeg erga la yiraahdo tayo markaan leenahay waa inuu jiraa halbeeg lagu aqoonsado waxa tayo la yiraahdo oo lagu cabiro cidii ka yaraatana la leeyahay tayo ma hayso cidii maarata weelkaas buuxisana la leeyahay tayo leedahay iyadoo wax halbeega aysan dawladdu la imaanin hay'ado kale aysan la imaanin ayaa waxa lagu leeyahay waxbarashada dalku tayo ma laha waxaa jiray xitaa wasiiro soo maray dawladda federaalka oo qaarkood intay la soo istaageen baraha bulshada iyo saxaafadda ay yiraahdeen waxbarashada dalku wax tayo ah meel leedahay ma jirto sababtoo ah arday jaamacada ka soo baxday oo wasaaradahana ka shaqeysa ayaa waxaan ku niri hal baaragraaf soo qor baaragraaf way soo qori waayeen isla wasiirkii la weydiiyay waxa lagu yiri erayga baaragraaf la yiraahdo ee aad qoladaas u dirtay af Soomaali ku sheeg adigu erayga baaragraaf la yiraahdo ardayga u dirtay af Soomaali ku fasir wuu ka jawaab waayay su'aasha qofka tayadiisa waxbarashadiisa tayo la'aanta ay ku dhacday ma midka afkiisi maahana af kale lagu imtixaanaya ma soo midka afkii hooyo inta lagu imtixaana ka jawaabay labadooda horta midka waxbarashadiisu tayo xun tahay waa meesha su'aasha taala eragan la yiraahdo waxbarashadu tayo ma leh anigu waxaan u arkaa inay tahay weerar maskaxeed oo qaawan oo ay soo qaadeen dad u adeega dana kaleeto u adeegaahi oo ay ku weerarayaan kuna niyad jabinayaan dadka wax ku bartay anigu waxaan kamid ahay dalkii dadka wax ku bartaan kamid ah ardada aan soo saaray ee jaamacadaha kala duwan ka soo baxday ee joogta Soomaaliyana kor way u dhaafaysaa 70,000 kor way u dhaafaysaa 70,000 oo arday hay'adaha private-ka iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay hay'adaha dawligana xafiisyada ugu sarreeyay ka joogaan mid walba hona meesha uu joogo shaqo ka qabtay wuxuuna ka hayaa hawl fiican ma waxbarashadeedii tayo la'aan ahayd markaa masa ardayga midaan baraya tayo la'aan ahayd waxa meesha aan ku hayno dhan huuha iyo sheekamiya afkaarta noocaasi waxay kamid tahay afkaaraadka lagu bahdilayo luqadda afka Soomaaliga iyo dhammaan waxbarashada afka Soomaaliga qofkii ku yiraahda waxbarashadaada iyo af Soomaaliga waxa lagu bartay tayo ma lahan waxa tirada weelka aad ku cabiraysa tayada erayga la yiraahdo noo sheeg aan beegno marka kadib aan ogaanayna aad u mahadsantahay سؤالي دلدها iyo arrinta dalladaha aad ku horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan rabaa inaan idin sheego dalladuhu xilliga ay ku shaqeynayeen waxa waa xilli aysan dawladda jirin buu ahaa marka xilligaasna waxbarashada carabina waa lagu dhigay ingiriisna waa lagu dhigay af Soomaali lagu dhigay xaqiiqo way taas la isku ma khilaafsana taas sababtaasna waxaan qabaa inay ugu weyn tahay deeqihii waxbarashada la helay xilligaas deeqa waxbarasho ayaa waxaana sii jiray dawlado ay ka mid tahay Suudaan ay ugu horeysay waliba ardada ugu badan oo deeqa waxbarashada la sii jiray Suudaan ay ahayd waxa kale deeqa waxbarasho laga heli jiray Urdun baa laga heli jiray Masar baa laga heli jiray marka haddii ardadii deeqaha waxbarashada helay ay wadamada carabta ay noqdeen qasab ay noqoto dadka inay luqada carabiga xiiseeyaan markaas waan ognahay xilligaas dawladihii reer Yurub ama ka jiray cid deeq waxbarashada si samaysan jirin way waxbarashadiina la dhaliilsanay laakiin wadamada carabta way soo dhaweeyeen shahaadadiina way ixtiraafeen
saasina ardayda wax kusoo baratay marka taasi qodob wey qodobka kale rabin hoos ka xariiqa waxaa weeye hadda gabar baa waxay dhaysay hay-adaha dibadda dalladaha wax siiya dalladaha cid wax siisa ma jirto dalladaha waxaasi ardayga kalaaska dhiganaya ayaa waxuu ahay waxyaabaha ishraakaadka uu bixiyo ayaa lagu wadaa maayna dallad cid siisa ama cid mushaar siisa ama hay-ad siisa ma jirto ma muslimiin afriiq dallad ma hay-ad waaye anu waxaan ka hadlaa dalladan ka hadlaa moogta muslim waxa waaye hay-adan ka hay-ad ma ka hadlaya aniga waxaan ka hadlaya waxaa weeye dalladan ka hadlaya dallad cid wax siisa amba hay-ad wax siisa gudaha amba dibadda ma jirto ya taasna eragaas inaan saxaan rabaa marka waxaa dadka Soomaaliyeed waxay ka qaataan bay ku shaqeeyaan xataa hay-adihii wax la sii jira xataa waa laga joojiyey taasna waa inaad ogaatiin la rabaa ardada waxa laga qaado ayaa wax lagu socodsiiyaa marka taasna waxaan rabaa inaan soo fahamkaas lagu khaldan la soco taasna waxa ila tahay inay tahay muhiimadda cidda laga rabo marka inay wax samayso wasaaradda waxbarashada weeye yaan waxba laga leexleexanin dalladna yaan la dhaawicin helakan yaan la dhaawicin cidda mas'uuliyadda iskale waxbarashada inay toosiso waa wasaaradda waxbarashada weeye 46 sanadoodaan waxbarasho ka shaqeynaa u aqaanaa cidda iskale inay wax toosiso wasaaradda waxbarashada weeye iyadaa laga rabaa inay wax toosiso manhaj ay ku noqoto حتى أنا وحن آمسناي إني منهج إسكو كومنا آمسن صحنا ما تاس هذا لبا أكاديمي دون يا حمر كجر تصومين لبا أكاديمي منين مي منهج وحكا قرين ما كقرين أنت نلاقي أنا ما أنا سحن مركا ولا ليال وكنت على الشيء أنا وحن لا يهاي وزارة وحبرشة وأنا غانا وحبرشة وجرت هذا أنا غانا وزارة وحبرشة مسؤولية إسكالي وزارة وحبرشة كالين تدق بحضو يعني أمد اللي حاجانين والسلام عليكم ورحمة الله هل قضبوا جبل الساشي ما يمحى فيها ما يمحى لا جد ما يمحى أقول ترى أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أف صومالي وأف صومالي صومالي ملك ستو جوغاني صومالي كله وفهمية af Soomaaligu waa af Soomaali af Soomaaliga af kala maaha af Soomaali qof kastoo Soomaaliya meel kasta joogtana way fahmaysaa deegaan kasta ay joogto iyo muxuu goob kasta ay ku nool yihiin Soomaalidu waa isku hal luqa oo ah luqadda afka Soomaaliga adiga marka waxa rabto u bixi marka ama maayde ama maxaa tiride ama muxuu luqadda waa muxuu makaawide ama baraawide ama waxa doonto de af Soomaaliga waa af Soomaali cid kasta oo rabto inay wax barato af Soomaali way ku baran kartaa hadday joogto muxuu hadday deegaan may joogto hadday deegaan maxaa tir joogto hadday deegaan makaawi joogto hadday deegaan barawaani joogto hadday deegaan kasta joogto waa isku mid marka dad waxaa jira marka sensitive oo waxay raadinayaan waxbay isku raadinayaan waxbay ceebeynayaan waxbay isla doonayaan waxbay isla raadinayaan maya waxaan xasuustaa waagii dawladda Soomaaliya jirtay ay shaqeynaysay suugaanta afka Soomaaliga ma iyo maxaa tiri iyo mid kastaba waa lagu sheegi jiray waa lagu hees jiray waa lagu gabi jiray waa lagu baraamburi jiray yaa kala soo jiray waagaas cid kala soo jirtay ma jirto haddana bilaasha loo kala soocaa luqadda Soomaaliga waa af Soomaali cidii doonta ku hadasho nuqo saad doonto uga hadlo wala iswada fahma wabillahi tawfiiq waxaan rabaa inaan hal kelima ku daro intaas uu yiri walaal la yiri arrintan ku daray waxa weeye weligiin ma maqasheen waa su'aal ama ingiriis ha noqdo ama talyaani ama Chinese ama dal kasta oo leh laba luqadood miyaad maqasheen waa maya dal kasta wuxuu leeyahay hal luqad buu leeyahay dal kasta wuxuu leeyahay hal luqad luqadaasina waa midda wax lagu barto weey oo looga soo bilaabo dugsiga hoose ilaa jaamacad ilaa ka kor wax lagu barto weeye waa luqadaas waa luqadda guud oo dalkaasi leeyahay dal walba wuxuu leeyahay misana oo kale wuxuu leeyahay afguriyo buu leeyahay tirsi kasta ha lahaadeen 10 ha noqdeen 20 ha noqdeen 50 ha noqdeen wuxuu leeyahay afguriyo buu leeyahay
hadda waddamadan carabta walaalaheenna dalkaa tagto ma garanaysid dadka caamkaahi luqadday ku hadlaan ma garan kartid waayo waa maxay waa afguri laakiin maxaad garanaysaa tan caamka waxaa la yidhahda luqatulfusxa baa la yidhahdaa waa luqadda wax lagu barto waa oo caalamkao dhan la yaqaano waay oo lagu barto iskoolada baa waxay tahay fusxa ah taas baa caalamkao dhan yaqaana laakiin ma yaqaano midda dialectiga ama localka oo suudaan iyo yemen iyo dal kasta oo caraba maala tusaale u qaatay marka ha la ogaado luqadda marka hadda waagii dowladdu jirtay raas casayr ilaa raas kamboni af soomaali baa wax lagu baran jiray laakiin ma jirin laba luqadood oo wax lagu kala bartaa may jiri jirin marka waa intaas dadku ogaada waad mahadsantihiin jaamacadda greenhope magaalada muqdisho oo ku saabsaneed waxbarashada iyo afka soomaaliga waxayna ka gaadheen mas-uuliyiinta jaamacadda greenhope waxay u mahadcelinaysaa oo mahad gaara u jeedinaysaa dhammaan ka qaybgalayaashii oo ugu horeeyo professor cabdalla cumar mansuur oo uu ka mid yahay professor maxamed warsame hiraabe professor maxamed muuse bataan ustaad maxamed faarax cali sida qiimaha iyo sharafta leh ee aada lagu faa'iideyseen cilmigii ku jiray waxayna ahayd waajib eeda saarnaa waxaa inoo soo xidho kulanka waaye dood cilmiyadeeda socotoon insha allah hadii la yiraahdo waxbarashada waa la bilaabo waa la dhameeyaa cilmi duuca siduu sheegay waa sax taladu waxaa kasoo bilaabay meel cidla ah xilli burbur jiray lagu kala yaacay amnigu xumaa nabadu jirin waxbarashana jirin ay soo bilaabeen runtii taladaha aad iyo aad ugu mahad celinaynaa haddaan nabahdo jaamacadaha sababtoo ah iyagaa dhiirigeliyey ardayga soomaaliyeed waxay usoo bilaabeen hoose dhexe sare waxay siiyeen shahaadooyin shahaadada ay siiyeen waxay ku yimaadeen heer jaamacadeed saas horta taladaha annagoo aan u xusnaa uguna mahad celin haddii la yiraahdo siduu sheegay cilmi duucuna waa saxo xilligaas waxaa jiray manhajyo kala duwanaa laakiin waxaan kusoo gaarnay maanta inaan bedelo karno oon aqli iyo aqoon u leenahay dadkii aqoontan ay joogaan abnin aan haysano haddii la yiraahdo aqoontiina haysano haddaan abada greenhope waxaan bixinay baajkii ugu horreeyey ee bayuur soomaali ah oo ay maanta bixiday na siiday arday soomaaliyeed aqoonna lahaa baaj iyo masterna ahaa ka doorbiday inay qaataan baaj soomaali ah insha allah waxaan kusii tala jirnaa masterkeeda in ku taba qaban doono haddii la yiraahdo inay dhisno afka soomaaliga xubnahan soo tiriyay markii shanta ahaa iyo annaguba diyaara un haddii la yiraahdo waxaan sugaynaa manhajkii markaan soo salayno insha allahu taasna waxaan u ballanqaadi doonaa ardayda soomaaliyeed in aan afka soomaaliga xoog ka saarno sida baaj u bixinay master aan u bixin doono insha allah haddii la yiraahdo waad mahadsantihiin qof kasta ka soo qabgashay dood cilmiyeedkan aad iyo aad u salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu